الله تعالى وبركاته رمضان كريم داود يال ملك استاد نقد داونيسان مدن يال يمروين waxaan idinka mahadnaqaynaa soo qaybgalkeen barnaamijka musharax qanci bulshadaada oo ah barnaamij aan ugu talagalay inaynu musharaxiinta golayaasha deegaanka iyo degmada Burco uga tartamayeen inaan uga horkeenno inay bulshada qaybaheeda kala duwan ee gobolka Togdheer ay su'aalo kala duwan oo la xiriira waxqabadkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda aan ka weydiino barnaamijkan waxa soo qaban qaabiyay 3 xubnood oo kamid ah aqoonyahanka dhalinyarada toobare jaamac maxamuud aadan jaamac karaacin iyo maxamuud cabdi oo xirsi iyo doctor سعيد عبدي جامع دقعده waxaana barnaamijkan baahinaya telefishinada Saab TV iyo sidoo kale telefishinka Sahan barnaamijkan waxa igu martiya 3 musharax oo u sharaxan golayaasha deegaanka ee degmada Burco 3 musharax dhamaantood waxay ku ololeeyaan booska maayirnimo ee degmada Burco waxaana ka kala sharaxay 3 xisbi qaran imika dhinacayga waxa fadhiya musharax Suldaan Jaamac Nuux oo ka sharaxan xisbiga mucaaradka ay wadani inta badan ku ololeeya booska maayirka degmada Burco geesta waxa ka fadhiya Cabdi Ahmed oo loo yaqaan Dabraan isna sidoo kale ka sharaxan xisbiga Kulmiye kuna ololeeya booska maayirka ee degmada Burco geesteeda waxa fadhiya Cabdirasaaq Ibrahim oo ku magac dheer Cabdirasaaq Heero oo isna ka sharaxan xisbiga Ucud sidoo kale ku ololeeya booska maayirka marka hore musharaxiinta waan uga mahadnaqaynaa soo qaybgalka ay ka soo qayb galeen barnaamijku wuxuu ka koobnaan doonaa 3 qaybood 3 phase-ka hore musharaxiinta ayaa waxay ka waramayaan qorshayaashooda iyo taariikhdooda phase-ka labaadna su'aalo kooban ayaan weydiin doonaa ka telefishin ahaan marka saddexaadna dadweynaha kala duwan ee ka soo qayb galay barnaamijkan ayaan su'aalaha weydiin doonaa intaas haddaan ka gudmaydayna barnaamijka fureyn waxaan kalmad kooban oo ka warbixin siinaya mid kamid ah xubnihii soo qaban qaabiyay barnaamijkani maxamuud cabdi oo xirsi Bismillahir Rahmaanir Rahiim ugu horeyn Ilaahay baa mahad leh waxaan salaamayaa bulshadan qiimaha leh ee isugu jirta haweenka dhalinyarada iyo waxgaradka gobolkan Togdheer ka soo jeeda sidoo kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa soo dhaweynayaa kuna faraxsanahay inay bulshadoodii soo hor fadhiistaan 3 musharax ee u taagan inay noqdaan xildhibaan golaha deegaanka ee degmada Burco waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka isagoo qof waliba uu ka qaadanayo barta uu ka leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka dib waxaan doonayaa inaan 2 eray ka ilaahdo barnaamijkan iyo qaban qaabadiisii iyo barta uu ka yimi barnaamijkani waa fikir iyo hal abuur ka yimi ustaadkeena weyn ustaad Jaamac Karaacin oo runtii ah xudunta gobolkan Togdheer imika dadka jecel horumarkeeda soo noqoshadeeda kor u qaadisteeda iyo bilicdeeda iyo hagaajinteeda runtii way yar tahay qof isku filan oo aan waxba u baahnayn haddana ka shaqaynaya dantii bulshada iyo dantii gobolka de caawaba hoteelka aynu fadhino iyo hoolka aynu isugu nimi iyo barxadda ayna kulansiisay ustaad Jaamac Karaacin baa fadligeeda leh isaga gartay inuu xildhibaanadii golaha deegaanka u sharaxnaa iyo bulshadoodii is hor keeno ujeedada labaad ee aan barnaamijkan ka lahayn waxa weeye 39 xildhibaan ee sharaxan ee u sharaxan golaha deegaanka ee degmada Burco in laga qabto documentary-gaasi uu noqdo mid baritoole dib ugu soo noqday iyaga mid ay baritoole iyagu daawadaan wax allaale iyo waxay xildhibaanada bartan soo fadhiistaa ay ku hadlaan ee ballanqaada ee muxuu ahaayay hadal macaane ee soo jiidashaa inay si kastay doonayaan inay codka ku helaana waxa laga doonayaa haddii aanay fulin karayn inay hadalkooda ka fiirstaan maanta waayo way soo noqonaysaa bulshadaasi bari bay kula xisaabtamaysaa bari baa la isweydiinayaa bari baa inay sidaas si lamid ah la soo hor fadhiisanaya taana intaasaan leeyahay xildhibaanada waxaan bulshadan dhalinyarada aqoonyahanka u badan iyo haweenkaba ku dardaaraya waxaad ogtihiin baahida gobolkan Togdheer ka taagan cid idinka sheekeynaysaa ma jirta baan u malaynayaa inaydaan u turin kana la jeclaysan wixii aad su'aal haysaan aad weydiistaan xildhibaanada
oo aa u weydiisaan aayaha dambe ee dhallinyarada maanta joogta iyo kuwa soo dhalanayaaba waayo hore baynu u soo aragnay xildhibaano fara badan oo arrimo sidan oo kala ka hadlaya hadal macaan iyo soo jiidasho sameynaya marka dambana dee dhuunto oo ka dhuunta macal bulshadii iyo danyartiiba si aanay taasi u dhicin maanta la xisaabtama baritoolana waxay naanta inay yidhaahdaan ha lagu golo keeno insha allah biidnillaahi alkariim waxaan u mahad celinayaa Future Brothers oo barnaamijkan qaybka jecelna had iyo jeer inay ka qayb qaadato arrimaha danta guud ee gobolka Togdheer waxaan sidoo kale u mahad celinayaa labada TV waan soo koobnay TV-yada waayo haddii wixii faraha laga badiyo la yar fara badiyo waxa systemkii baa yar xumaanaya marka laba TV baan ku soo koobnay Sab TV iyo Sahan TV waxaan jeclaysanay inay sida aanu doonayno iyo siday bulshada doonayso wax u tabiyaan iyagana aad iyo aad baan u mahad celinayaa waxaan kaloo u mahad celinayaa Dayax Jad oo aan leeyahay way ka qayb qaadatay hawshan inteeda badan waa tabarucaad weeye maaha wax xildhibaan lacag lagaga doonayo maaha wax bulshada su'aalaha dadka wadniga lacag lagaga doonayo waa fikir lagu hirgeliyay burcannimo iyo hiil burcannimo xildhibaan kastoo batan imaadaa ma doonayno inuu xusbinimo ku yimaado waxaan doonaynaa inuu burcannimo ku yimaado burcannimo iyo burca wax uu qabanayo waxaan ku soo gabagabeynayaa waan ka kala tegey saaxiibkay Siciid Dhagacadde oo ah runtii haliyey gobolkan Togdheer in badan soo shaqeeyay qurbaha inaga maqnaa markuu imika yimina gartay inuu gobolkiisa isagoo aan waxba ka doonayn si frontier ah bal cilmigii uu soo bartay iyo aqoontii uu soo bartay uga faa'iideeyo qaybna ka ah barnaamijkan caawa fadhino ilaahay idankii caawa iba fur yahay barnaamijku wuxuu socon doonaa inta aynu ka gaadhi karno xildhibaanada habeen kasta bulshada qaybaheeda kala duwan waan soo casuumaynaa waan u yeedhaynaa xildhibaan kastana waxa laga doonayaa wixii uu maanta burco ku arkay iyo waxa uu isleeyahay ka bedel assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh aad buu mahadsan yahay intaynaan barnaamijka gudagalaynaa musharaxiinta u wareejin waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda muuqaalada duubista ee Future Brothers iyo DJ Qule barnaamijka ugu horeyn waxaan u dhiibayaa musharaxa golaha deegaanka ee degmada Burco Axmed Cabdi Aadan oo loo yaqaan Darbaan waxaanu ka warbixin doonaa taariikh nololeedkiisa waqtigan waxaad nagu soo koobaysaa 5 daqiiqo dhammaan cid kasta oo madashan quruxda badan soo qaban qaabisay waan u mahadnaqayaa marti sharafta halkan iga muuqatana iyagana salaana waana salaamayaa waana u mahadnaqayaa anigu Axmed Cabdi Aadan baan ahay dad badanna waxay yaqaanaan Axmed Hees Darbaan waxaan u sharaxanahay golaha deegaanka ee degmada Burco sharcigu ama xeerarku waxay dhigayaan in kaliya iminka loo sharaxnaado uu xubin golaha deegaanka saafrayo maarnimadu waa hadhow iyo cidda soo baxda iyo procedure kale gashaa anigu marka la yiraahdo isjeeg waxaan isku sifeeyaa 2 shay oo kaliya waxaan qof wax akhrista waxaan ahay dhul mareen labadaasaan isku sifeeyaa mawduuca runtii noogu yeedhan waxa weeye inaanu idinka warramano xilkan aanu ordayno waxaanu ku soo kordhinayno ama waxa uu yahay qorshahayaga anu su'aal baan waxaan isweydiiyaa golaha deegaanku maxay ka shaqeeyaan ama waa maxay mushkiladda ay xaliyaan mushkiladdan waxaan ku soo koobaa waa mushkilad la xidhiidha qancinta bulshada magaalada ku nool bulshada magaalada ku nool ee noocyada kala duwan sida loo qancin lahaa ee loogu adeegi lahaa ayay soo hoosgelaysaa haddaba bulshada Burco ku nool 2 mushkiladood waa haystaa af Ingiriisiga waxay noqonaysaa migration iyo immigration dadkeenii labeenta ahaa waxbartay ganacsatadii magaalada way ka hayaamayaan muddo aad u dheerna hayaankaasi u jiray in badan oo ka mid ah Hargeysa oo hayaamaan in kalena waxay u hayaamaan qurbaha waxa kaloo jira wax la immigration Burco maanta hareeraheeda waxaa jira waxa Ingiriisiga la yiraahdo IDP laakiin anigu aan aqaano dad barakacayaal ama soo qaxay oo qaxooti ah waa wadankeena oo kaliya ay ka jirtaa
qof muwaadin oo degmadiisii jooga inuu haddana qaxoonti ku yahay isla degmadiisii kumanaan kun bay gaadhayaan dadka maanta qaxoontiga ee magaalada martida ku ah labadaa mushkiladood waa dadkeennii degmada ku noolaa ayay ku dhaceen haddaba halkiiba ugu habboon wax laga bedeli karayaa markaynu golaha deegaanka eegno anu waxaan aaminsanahay dhinaca hogaaminta magaalada ama fulinta magaalada ayaa mas-uuliyadda ugu badan saarantay waana halka wax laga xalili karayo meerku maaha maamule maamulaya quality-ga timeka ama camalka uu samaynayo tayadiisa kharashka ku baxaya iyo waqtiga uu dhammaanayo waa mid la soconaya dareenka bulshada maanta waxaynu ognahay is-aaminaadii ka dhaxayn jirtay golaha deegaanka iyo shacabku inay halkii ugu hooseysay marayso public trustkii hoos buu dhacay haddii aanu ku guulaysano xubinnimada iyo gaar ahaan fulinta anigu axmed ahaan aan ku guulaysto shayga ugu horreeya aan ka shaqaynaya waxa weeye kalsoonidii shacabka inaan dib u soo celiyo marka waxyaabaha dadka aan ugu adeegaynaa way fara badan yihiin ee xaqana loogu leeyahay waxaa ka mid ah wadiiqooyin kala duwan tusaalahaan markuu magaalada roob ka doo magaaladu way isxidhaa qof waliba halka uu joogo ayuu ku go'doomaa waanu awoodi karaynaa annagoo ka duulayna miisaaniyadda dowladda hoose iyo cashuuraheeda u soo xarooda in dadkeeda lagu dhiirigeliyo oo markaa wadiiqooyinkii ay marayeen biyaha ina xidhaya in la sameeyo jidadka magaalada waxaynu ognahay iminka guryihii horey ugu soo baxeen jidadkiina way burbursan yihiin mar walba annagoo ka shidaal qaadanayno oo ku jaangoynayna miisaaniyadda u soo xaroota golaha deegaanka oo kow ay ka tahay cashuur ururinta tabaaqatay iyo taa iminka gacanta ku hayaan baatay tahay hadday tahay lacagta uga soo xaroota liisamada ganacsiga iyo ardiyadda waxa la yidhahda guryaha laga qaado taasaan oo ah priority ama aanu ka doonaynaa taas markaas sidii uu hore ugu shaqayn jiray mayrikeennii weynaa ee maxamed xuseen waxaanu ku soo celin doonaa bulshada inaanu ku shaqayno naga go-an aad buu mahadsan yahay axmed ciise dharbaan iminkana waxaan mikrofoonka ku wareejin doonaa musharax suldaan jaamac nuux oo ka warrami doona qorshayaashiisa iyo taariikh nololeedkiisa isagoo 5 mir nagu soo koobiya bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed sala allahu calayhi wasalam dadka halkan isugu yimi sharafka qiimaha leh ee caawa xafladda noogu yimi aad iyo aad baanu salaamayaa waxaa kaloo salaamayaa mulkiilaha modaalkan jaamac karaaci oo soo qabanqaabiyey doodan iyo maxamuud xursi iyo siciid dagacadde aad iyo aad baanu salaamayaa caawa waxaa inoo daadihinaya shaakir oo saab t v ka socda isagana aad baanu salaamaya bacda salaan doodo badan baan gala waxaan filayaa war badan wax xiise leh inaan idiin sheegaynin laakiin caawa waxaan ka sheekeynayaa anigu bal qofkaan ahay suldaan jaamac halkan buu ku dhashay burco ku dhashay dhuxusha ku dhashay gurigu yaalla waxaan dugsiga hoose ka bilaabay jabal cabdinaasir maxadka oo loo yaqaano kadibna markii dagaaladii kadib waxaan qabtay hargeysa sheekh bashiir baan ka dhigtay hargeysa intaa kadibna waxaan usii gudbay xagga iyo ingiriiska college-ka waxaan ka dhigtay Hackney Community College waxaan ka qaatay IT-ga waxaan ku guuleystay scholarship ay bixisay xaafadda deganaa Tower Hamlet oo lagu dhiganayay community leadership jaamacadda SOAS baan ka dhigtay community leadership sida loo hogaamiyo bulshada waxaan markii dambena jaamacadda Plymouth ka qaatay shahaadada digriga oo ku dhigtay oil and gas management intaa kadib waxaan shaqada ka bilaabay ka hor anigoo wax baranaya ka horna waxaan shaqada ka bilaabay company xayeysiis oo la yiraahdo JWT waxaan kaloo ka soo shaqeeyay Chelsea Football Club baan ka soo shaqeeyay 2002 iyo 2003 waxaan ka shaqeeyay HSBC Bank oo bangi weyn oo dunida laga yaqaano waxaan marketingka qaybta marketingka Europe
aan uga shaqeeyey shirkadda dahabshiil waxaan ka shaqeeyey Black Rock Investment Bank waxaan kaloo ka soo shaqeeyey Lloyd Register of Shipping oo shirkad weyn oo kale ka tirsan jirta Ingiriiska ku taala markii dambena 2013 ilaa imikana waxaan ka shaqeynayay shirkadahan anigu leeyahay oo ka shaqeeya daryeelka carruurta iyo dadka waaweyn oo ilaa imikada jira waxaan ahaa qoray buugga nabadshe oo ka hadlaya taariikhdii nabadeynta gobolka Togdheer oo laga soo bilaabay Ruqsi ilaa markii dambe kusoo gabagaboobay magaalada Beer waxaan qoray buugga la yiraahdo wax ka qoray buugga la yiraahdo Hagar Laawe oo ka qoray ninka la yiraahdo Gaariye waxaan kaloo qoray buugga la yiraahdo Duugreeb oo ka qoray Hawre Walwal iyo Cambaro waxaan sameeyay website-ka la oran jiray aftahan.com oo ka shaqeyn jiray dhaqanka iyo suugaanta waxaan ahaa suxufi ka shaqeeyay raadiyoyada oo 2002 aan ka bilaabay radio Sahan oo magaalada London aan ka wada shaqeyn jirnay ninka TV-gan la maanta Cali Sayd halkaas ku baranay waxaan ka soo shaqeeyay radio Tusan aan ka wada shaqeynay Maxamed Baasha Xaji Xasan oo wada garanaysaan waxaan editor ka ahaa Enterprise news la oran jiray isku soo bixi jiray 2012 oo lahaa Khaliif Xiwaal siyaasiga weyn oo wada garanaysaan website-ka aftaan 2000 baan bilaabay 2012 waan registereeyay 10 sanadoodna editor baan ka ahaa dhaqay suugaan baan ku sameeyay waxaan ka soo shaqeeyay ururka TAF oo wax ka aasaasay oo aan ku dhisnay cusbitaalka Maandhaye waxaan kala ku soo shaqeeyay ururka Nomad Somaliland Society UK aan xogeeye ka ahaa ay markaan xogeeyaha ka ahaanay Sucaad Carmiyo oo ka u tartamaysa baarlamaanka ay gudoomiye ka ahay Nomad waxaan ka soo wada shaqeynay Yaan Cashuur iyo Iid Xasan oo labaduba yihiin dad aad Soomaaliland looga yaqaan waxaan ka soo shaqeeyay Friends of Somaliland Friends of Burco University aan jaamacadda Burco ku dhisnay waxaan kaloo ka soo shaqeeyay ururo badan oo SSE ay ka mid tahay ururka aftaan la oran jiray oo dhaqan iyo suugaanta aad uga shaqeyn jiray laba xafladood oo weyn ka qayb qaatay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقرين الله بأن مهد لعا وهالكان سوق كان مدشان هي موضوعا مركا اللبات مقعيق عبد الرزاق إبراهيم عبد الرزاق هيرو والي يقانا داديدي وحويان صدو جير waxaan ku barbaaray wax ku bartay dugsi hoose dhexe malcaamad jaamacad magaalada Burco waxaan ka baxay kulliyadda horumarinta bulshada ee jaamacadda Burco isla markaana heerka labaad waxaan ka wadaa kulliyadda la yiraahdo horumarinta waxbarashada iyo maamulka waxa aan maydihii taariikhda sidii waaweynaa la oran jiray qofkani muxuu ka soo baxay iyo saymuhu soo maray laakiin guud ahaan 30 aan sanad jiray 10 sano u dambeeyay waxaan ka shaqeynay arrimaha bulshada magaalada Burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer inta markaan ka imaado waqtigo yar oo 5 daqiiqo kaliya 4 daqiiqo haray waxaan ku soo koobayaa inaan wax idinka fahansiiyo waxaan ahay tartamaya xildhibaanada golaha deegaanka isla markaana doonaya degmada inuu maamulo marka bal shaqada naloo dirayo baan xog idinka siinaya degmada iyo golaha deegaanka marka koowaad golaha deegaanka degmada Burco waa adeeg bixiye u dhaxeeya dawladda dhexe iyo shacabka wuxuu adeeg gaarsiiyaa bulshada ilaa qaybta ugu hooseysa waana jaranjarada u hooseysa ee dawladnimada gaarsiisa bulshada maadaama uu ka yahay wuxuu ka shaqeeyaa dhammaan baahiyaha asaasiga ee bulshada leedahay oo dhan qayb la xaalab waliba ku leeyahay golaha deegaanka degmada Burco aynu joognaa qaab dhismeedkiisu wuxuu yaalaa wax la yiraahdo golo fulin iyo gudi hoosaadyo waaxiisu waa 5 wuxuuna u qaybsamaa waxa meesha yaala waa 3 waa dad iyo agab iyo lacag la doonayo adeegga fuliyaan waxyaha dawladda hoose waa 5 qura dawladdan hoose shaqadeeda waxa lagu maamulaa wax la yiraahdo xeer waxaan inta ka horeysiinaya waxyaha dawladdu sida ay u shaqeeyaan uma shaqeeyaan dhammaan goobaha shaqada ee adduunyadu waayo dawladdu waa bulshada nolosheeda mas'uulka ah waxay ka tahay badqabka bulsheed maskaxeed jireed caafimaad waxbarasho agab hooy wax walba marka hanaanka dawladnimada ee dawladda hoose wuxuu la shaqeeyaa horta uu hoostaga wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu kaloo la shaqeeyaa gobolka ay ku taalo degmadaas dhammaan wasaaradaha guud ee qaranka waaxyaha ku yaala oo iyagu
soo mariya waxay qabanayaan boqolkiiba 70 dowladda hoose maadaama ay dowladda hoose mas'uul ka tahay inay adeegga gaarsiisay ilaa meesha hooseysa waxa markaa lagu maamulaa wax la yiraahdo xeerka waxa la yiraahdo xeer 23 waxaan ilaa xeerka ismaamulka gobolada iyo degmooyinka wuxuu ka kooban yahay 12 cutub wuxuuna ka kooban yahay 109 qodob guud ahaan 109 ka qodob 7 ka mid waxay ka hadlaan maamulka dadka agabka lacagta kalfadhiga doorashada wax kasta oo way si loo dhiso qofkan bulshada u adeegaya inuu xeer raacaa 9 qodob ee haray mid waa ka fulinta u dambeeyay saxiixa madaxweynaha 8 kale waxay ka hadlaan adeegga la bixinayo oo isugu jira dhammaan baahiyaha aasaasiga caafimaadka waxbarashada deegaanka dhaqaalaha dhalinyarada wadooyinka bilicda ammaanka waxaasoo dhan ay markaas ku jiraan waxyaabaha noocaas xeerkaasi haddaba xeerka qorani marka koowaad waa waajib in la raaco lagu maamulo hanaanka ama shaqooyinka dowladda hoose hanaankaasi wuxuu maraa markaa 3 fursadood uu bixiyaa kow inuu raalli ahaada kow ina xeer hoosaad samaysan kara xildhibaanada golaha deegaanka degmada tegaya laba inay samaysan karaan qorshayaal horumarineed oo 5 sano ay joogaan oo sanadle mid waliba yahay marka saddexaadna waa maxay waaxyaha inay kordhisan karaan marka aad bay cidhiidh u yihiin waaxyaha dowladda hoose waa 5 qura waaxdii arrimaha bulshada ayad inay 10 noqoto aad bay u kooban tahay waxa kale oo jira wax la yiraahdo xildhibaanku hadaba muxuu la tegayaa meesha waa ka qodobka weyn xildhibaanka golaha deegaanka imanaya ee degmada ka mid noqonaya ee 13 ka mid noqonaya ee xeerku yaalo xeer the 1 minute baa maan haystaa the 8 waa 3 ku dhamaanaysa marka way aad iyo aad baa mahadsan waxayna marnaba hilmaamayn qabanqaabiyaasha barnaamijkan waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidoo kale waxaan u baahanaynaa shirkadda muuqaalada iyo sawirada ee Future Brothers iyo DJ Quule iyo sidoo kale cid kasta oo ka qayb qaadatay iyo bulsho qaybeeda kala duwan ee ka soo qayb gashay waa mahadsantihiin bad leenahay fayskii labaad ee barnaamijka ayaan galay 3 su'aalood baan xildhibaan walba su'aal weydiinaynaa su'aasha ugu horeysa waxaan weydiinaynaa musharax Suldaan Jaamac Nuux oo inta badan ku hooleeya maayirka degmada Burco musharax inta badan waxaad ku hooleeysaa maayirka degmada Burco waxaan ognahay in maayirka hore degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad uu sheegay inaanay Burco lahayn dhaqaale ku filan adna inta badan waxaad sheegtaa inaad horumarinayso magaalada xagee baad ka keenaysaa lacagtan aad ku horumarinayso Burco maadaama aanay lahayn dhaqaale ku filan ba maadsantahay Shaakir horta mid kama sii sheekayn karo Maxamed Muraad isaga wuxuu gagaalsan dowladda hoose inay dhaqaale lahayn iyo inay dhaqaale leedahayna isaga iyo reer Burco og laakiin mid baan anigu idin sheegayaa anigu shirkado aan leeyahay baan ku soo maamulay Ingiriiska maadaama shirkad Ingiriis ku maamulayso accountant iyo legal iyo wax la yiraahdo budgeting iyo HR afartaba way leedahay Soomaad garan marka waxyaabo badan oo aan halka ka jirin oo la isku daba gelin ayaa jira waa daafurnaan waa istabagal waa xisaabtan waa qorshayn waxaas oo dhan baa lagu shaqeeyaa marka anigu waxaan leeyahay khibrad hogaamineed oo xagga shirkadaha ah waliba dibad ku soo shaqeeyay marka waxaan qabaa haddaan dowladda hoose galo inaan leeyahay hogaamintii ay u baahnayd dowladda hoose anigu ma noqonayo qof ma garanaysaa shaqadii gacanta ku qabanaya laakiin hogaamintii baan leeyahay dadkii qabanayay sidii loo qabanayay lacagtii lagu qabanayay budgetkii lagu sameynayay iyo waliba curintii iyo hindiskii lagu keenayay wax cusub masalan oo kale dhaqaale la'aan baa haysa dowladdii hoose maxaa keenay dhaqaale la'aanta 80% dhaqaalaha gobolku dowladdu ma soo saarto maxay u hanan kari weydi lambar 1 waxa weeye kalsoonidii dadka ma haysto lambar 2 dadka kuma dhiirigeliso inay ka qayb qaataan dhisida iyo ma garanaysaa isku xidhnaanta dowladda iyo dadku aad buu liitaa markaan waxaan soo celin doonaa shacabka iyo dowladdu inay isku xidhnaadaan dowladda hoose waxaan soo celin doonaa inaan barnaamijyadii iskaa wax u qabso ee wadankan gobolka lagu dhisay inaan dib u dhisno taasaa keenaysa inaa idinka iyo kuwa dibadda jooga iyo dowladda dhexe iyo hay-aduhuba ay halkan investment geliyaan dabadeedna mashruuc kastaan qaban doonaana wuu daahfurnaan doonaa transparency wax la yiraahdo wuu samayn doonaa halkaas dadka oo dhan baa ka qayb qaadan doona
weliba mashruucan aad iyo aad imika ugu ololeeya ah meesha Somaliland magaranaysaa lagaga dhawaaqay dowladda dhexna waan kala shaqayn doonaa budget baan u samayn doonaa runtii waxaan ka dhigi doonaa wax hanti buuran la geliyo oo quruxda magaaladana ka qayb qaadata investmentna soo saarta labaad waxaan weydiin doonaa Cabdi Aadan Darbaan musharax waxaynu ogsoonahay in musharaxiinta golayaasha deegaanka ee degmada Burco waqtiga ay ku jiraan ololaha doorashooyinka waxa baxda ama ka qarash aad u fara badan si ay u soo baxaan ay booska doonayaan ugu guuleystaan waxaana raacday adiga musharax ahaan qaab nooceeya ayaa deyntaasi u celin kartaa kharash badan baa baxaya waa kharashka faraha badan leh baxaya waxa ka badan cilmiga aan bartay minka already dadkii baan bartay baahiyoodii baan bartay qaabka loo ololeeyo bartay waxa jira waxaan ilisho arkaynin waxyaabaha hadaan dadka falsafada akhriya waxaan u kala saaraa wax material ah iyo wax immaterial ah dadka markaa immaterialka xoog saara waxaan muuqanaya laakiin waxa badan waxa aan muuqanaynin marka already anigu wixii iga baxay waxa ka badan cilmiga aan faa'iiday wax daynina kuma jira imka taana ku darso suldaan baa waxoogaa ku dheeraaday oo wuxuu yidhi waxaan maamuli jiray shirkad baan maamuli jiray oo markaa HR-kii iyo accountant-kii iyo waxaasoo ku dheeraaday laakiin saaxiibkay suldaan waxaan leeyahay suldaanow dee CEO-gu ma aha hogaamiye CEO-gu waa maamule marka dowladda hoose laga shaqaynayana shayga ugu badan laga shaqeeyaa waa dadweynaha anigu dadweynaha ayaan qancinayaa dadweynaha ayaan u shaqaynayaa waxa waamiirana dadweynaha kuma soo dhakada kagama keenayo guriyo waxa aan door bidayaa xaafad waliba guri inay yeelato ay danaheeda kaga hadasho oo dabeetana gool deegaan ahaan aan u qiimayno baahidooda u gaarka ah hogaamiyuhu wuxuu mar walba runtii la direeyahay bulshada waana qof adeega ah oo ummadda u shaqeeya marka aniga personally markaan ka hadlayo hogaaminta marka laga hadlayo magaalada Burco wax fara badan oo wax dhamaanteed lagu qancinayo dadweynaha ayaa jira hadday tahay guryahan imika kala dhaadheer ee town plan-kooduna uu qariban yahay laba guri baad arkaysaa oo midna dheer yahay midna uu gaaban yahay isagadu waa isku height noqdaan caalamka dunida waxa weeye isku height musharaxa golaha deegaanka ee degmada Burco musharax Cabdirasaaq Hiyulaban isagana su'aasha weydiinaya maadaama aad socoto golaha deegaanka ee degmada Burco aqoon intee leeg ama khibrad intee leeg ayaad u leedahay waa laba kala jaada aqoontu waxa weeyaan qofku waxa uu information ahaan iyo aragti ahaan soo arkay khibraduna waxa weeye wuxuu qofku taataabtay oo deetana uu yaqaano wixii looga sheekeeyay wax ka badan ka bartay oo xataa isagu uu leeyahay makaaniminta magaalada joogaaba dee qaar kala kaankaana bay iskariya waxay dhan taaba dee uu ku shaqeeya marka khibradu ku bartay inaan waxaan xataa xaaladu sugnayn uu keeni karo marka waxa aan anigu golaha deegaanka xildhibaanka la doonaya inuu yimaadaa waa inuu 4 shuruudood weyn u leeyahay marka koowaad waa inuu xogogaal u yahay bulshada uu doonayo inuu u noqdo maamule bulshada loo doonayo inaan maamulo u noqonaana maaha magaalada Burco kaliya waa 114 tuulo Burco hoostaga 7 IDB Burco ku xareeraysan 13 degmo hoosaad iyo 3 degmo Burco leedahay dad 1 milyan ku dhawaana ku nool marka xogogaal inuu yahay dadka laba inuu ka haysto fikrad ka haysto waajibaadka ay qabato xaruntu imanaya 3 inuu xirfad leeyahay gaar ah creativity inuu leeyahay iyo 4 inuu qof bulshaawiye yahay marka anigu Cabdirasaaq ahaan 4 taaba inaan buuxiyay baan aaminsanahay oo aan isku ogahay oo bulshada inta Burco joogtay 114 tuulo badankooda ku noolba ay magacayga igu garanayaan inaan qof reer Burco ahay la soo shaqeeyay 10 sano arrimaha bulshada ka shaqeynayay golaha deegaankana dee khibrad marka laga yimaado waa kan xeerkii lagu maamulayay 23 ahaa heer 23 imka waxaynu wareeganaa fiiskii dadweynaha ay musharaxiinta su'aalaha weydiinayeen waxa halka aniga khamiiska cadle su'aasha ugu horeysa bismillaahi raxmaani raxiim magacayga Axmed Haykal waxaan weydiinayaa runtii saddexda musharaxba waxaan hoos u jirto maayirnimo waxaan doonayaa maadaama corruption-ku aad inoogu badan yahay oo maalinta aynu xilka qabanayna aynu caatanahay birina inagoo naaxsan aynu ka baxayno
ma noo sheegi kartaan saddexdaynuba hantida aad leedihiin si aan beriyoodu la xisaabtanno oo waxa soo kordhaan u ogaan aad baa mahadsantihiin bismillaahi raxmaani raxiim madasha iyo musharaxiinta baad baan u salaamayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي صدق مشرح بقى أنا جهل سؤال بين ودي ويديني يا أو حيرتو ألف حيرتو ألف محايد كقرشيسا سه أودي نينتي إلك عياد كوبدلي كرتان أمي تنجرات كسمين كرتان هرت صدق مشرح بقى هالكافردية صدق ده هالكاسبان وران كرا أنا ومان توان كوكا ربي أنا عن من كرامي من أقول من هي جارة لكن نقول بالتاريخ دي صارتي حلبان سلطان وننكا وقعد عد وننكا سؤال إذا هدان قد قالوا حلبان وحن كويدين يا maxaa kaaga qorshaysan ganacsiga gobolka oo aad u xirxiran waa su'aasha labaad maxaa kaaga qorshaysan ganacsiga gobolka oo aad u xirxiran maxaa kaaga qorshaysan saddexda murashaxba aad iyo aad baan u salaamayaa axmed cabdi aadan axmed xiisi iyo suldaan nuux jaamac iyo cabdirasaaq hiirooba ilaahayna waxaan idinka rajaynayaa inaad noqotaan kuwa noo dhaama kuwii hore oo noo bedela insha allah bismillahi alkariim intaa markaan ka tago hal su'aal baan u kacay su'aasha aan u kacay runtii shaakir baa mar hore ku bilaabay barnaamijka suldaan mu weydiiyey waxaan jecelahay inaan mar kale su'aashii ku celiyo wax kasta oo la qabanaya waxay u baahan yihiin budget iyo lacag bay u baahan yihiin qof kasta uu iska oran karaa wadaan sameynaya dabaqyaan dhisaya meel cagaaran baan sameynaya laakiin wax kasta waxay u baahan yihiin kharash iyo lacag bay u baahan yihiin lacagta halkaad ka keenaysaa baa suldaan la weydiiyey kamanuu jawaabin waxaan u baahanahay budgetka wax noogu qabanaysaan ma idiin sawirantay halkaa ka keenaysaan lacagta magacaygu waa xamse cabdi ibraahim saddex kuu su'aalo guud baa la weydiiyey saddexdooba jiray cabsaaq saddex ma hayna afar baan u malaynaya inay ahayd anigu maan qoranin oo waxaan tijaabinayay xusuusteedaan tijaabinayay inanka axmed wuxuu nagu yidhi hantidiina ma qoraysaan oo sidaan u ogaano inantanna waxay tihi xeertu alif inantii halkaas joogtana waxay tihi ganacsiga maxaa idinka qorshaysan xamse cabdi ibraahim waan ka xumahay walaalina tartanka ka hadhay waad halkaa jeclaa inuu nagula soo biiro oo golaha deegaanka nala galo oo bulshada iyo arrimaheeda wax nagala bedelo wuxuu yidhi dhaqaalaha xaggaa ka geenaysaan aad ku bedelaysaan waxaana ka sheekaynaysaan haddaan ka horreeyo axmed dee hantideeda waa qoraynaa xeer baa dhigaya oo xeerka 15 baa dhigaya inuu la qoro something inuu ka ahaa baan filayaa marka hantideeda aanu leenahay dee waa qoraynaa hantideeduna dee dhowr nooc bay u qaybsantaayo ta maskaxdeeda ku jirta dee hantiya waayo hal abuur baan samayn karaa marka meesha tago laakiin anigu hanti weyn oo magaalada ku muuqata madihi waa 2 balon oo dhula gurigan ku jiro aabbahay baa leh waa hanti marka anigu hantiile ma ihi laakiin labadaba mulkiyadoodii dowladda hoose taala waa qoran tahay meel baa lagu duwayaa ka labaad ee kale waxay tiri xeertu alif horta waxaan doonaynaa hanaanka dowladnimadu u shaqaysa inay fahanno maadaama aynu information age marayno dad wax bartaynahay xeertu alif dowladda hoose ma quseeyo xeerarka dalka waxaynu u diranay gole la yidhaahdo xeer dejin baarlamaanku iyagaa markaa dib u eegis iyo kaabis iyo wax ka bedel ku sameeya xeerarka dalka xeerkan golaha deegaanka xeer 23 2019 baa lagu sameeyey wax ka bedel kadibna awoodo dheeraad ah baa la soo saaray marka waxaa jira 15 xildhibaan oo u tartamaya golaha deegaanka oo wakiil ah inaga inaga wakiiliin macnaanaga kuwaasaynu su'aasha weydiinaynaa la sii dardaarmaynaa waxna ku biirinaynaa inadaasi waxay tiri ganacsiga maxay idiga qorshay magaalada ganacsigu waa qayb ka mid ah qorshayaasha dowladda hoose ama waxyaabo ay tahay inay qabato hadday tahay suuqyada hadday tahay hal abuurka cusub ee dhalinyarada lagu soo dhaweeyay entrepreneurshipka waxa la yiraahdo haddii ay tahay inay kaabto badee ganacsiyada jira haddii ay tahay inay saaxad furto ganacsadadu ku soo dhiiran karto gobolka ku maal gashan karto de waxaana jirta wasaaradda ganacsiga marka taana de halkaanu ka wada shaqeynayna ganacsiga ilaa kaligayo madiina waxaanu u dhaxaynaa wasaaradaha iyo bulshada marka de way qorshaysantay in dadkii dalka lagu soo celiyo ganacsatada ugu fiican ugu hantida badan baynu dalka leenahay
qurbajooga kuwa ugu hantida badan baynu leenahay hal abuurada ugu fiican dee reer burcaa leh dalka marka inaanu saaxadda furno suuqyada inaanu dee rugta ganacsiga jirta marka dee qorshayaal badan oo dee waqti baa dee nagu socdee haddii kala dhigdhiga dee muddo badan qaadanaya marka waxyaabahaas oo dhan bay waajibtay dowladda hoose inay qabato wax cabdirasaaq u qorshaysan maaha waa waajibaadka qoran meesha su-aasha afraad ee xamse cabdi ibraahim way raalli xamse cabdi ibraahim wuxuu dhaqaalaha xaggaa ka keenaysaan dowladda hoose ma suldaan bay ku socday mise general bay sorry away marka su-aasha waxay yidhahdeen xaggee ka keenaysaan muu dhaqaalaha ku horumarinaysaan magaalada qodobka 87 ee xeerka ismaamulka gobollada degmooyinka wuxuu dhigayaa dowladda hoose 4 meelood buu ka soo galaa dhaqaaluhu kow waa cashuurta oo 23 qaybood uu ka soo galo laba kabka dowladda dhexe ka soo gaadha oo 12.5 guud ahaana haddii ay resource soo saarto degmaduna 10% looga jaro iyo 3 inay deyn qaadan karto iyo 4 inay hay'adaha caalamiga interventionist ay geliyaan gobolka marka de horta markaan meesha tagnay ilaa meeshii ma joognay imike waanu qiimeynaynaa 23 kan cashuurteeda dadka ku waajibay kabka dowladda dhexe international NGOs-ka geliya gobolka degani waxay geliyaan inta markaan isu geyna hadday ku filaa weydo horumarka gobolka deyn baanu qaadanaynaa assalaamu calaykum سلطان ما كوري جريان بسم الله الرحمن الرحيم هيكل وحوي ويديي هانتيدينا عليدي منو شيء كرتان أنا وندي شيء قبل شركة يشقيا لإنجليزكا دار بريو بقولي برعاية هركيسة بيرا بقولي هالكان يلولبا إن شاء الله وديوان قلنا مركز صوبه وحكي يدي شيء جيا xildhibaano badan oo reerahoodu taageereen baa jira aniga reerima taageerin sanadna waan ku jiray kambeynka welina waan ku jiraa marka 1B laguma darsan idina ma garanaysa kuma soo bixin hantidaydaan isticmaalay runtii warantaan doonayna hankeeda ku soo saaro taalkaas ka baxay xeer 12 maxay idinka qorshaysan way xabsina weydiisay xeer 12 meelo badan baa ka sheegay xeerkaas waa xeerka dabraya dhaqaalaha weydiinaya xamse ee gobolka soo geli lahaa in gobol kale ay qaataan ama meelo kale cashuurtii halkan laga bixin lahaa ay meel kale qaataan xeerka 15 xildhibaan ee gobolka iyo xildhibaanada kale ee Soomaaliland soo baxa ee cusub iyo xisbiga ka tirsan ee wadaniba waan ka ololeynayaa insha Allah si xeerka loo jabiyo waan ka ololeynayaa waxa kaloo la weydiiyay ganacsiga maxaa kaaga qorshaysan ganacsiga wax badan baa iga qorshaysan ganacsigu wuxuu ku tiirsan yahay isu socodka gobolka iyo dadka ayuu ku tiirsan yahay marka gobolkan haddaynu ka dhigno meel dadku soo booqdaan ganacsiga kor buu kacayaa hodheelada waa la gelayaa baabuurta waa la raacayaa guryaha waa la kiraysanayaa inaynu magaalada promote garayno imageka laynaga haysto aynu qurbo joogta iyo dadka kaleba aynu halkan magaranaysaa ku soo jiidano inaynu amniga magaalada hagaajino oo hay'adaha Soomaaliland yimaada ay halka yimaadaan ganacsiga wax weyn bay ka taraysaa guryaha ka kiraysanayaan baabuurteeda ka kiraysanayaan intiina wax baratayna shaqo ka helaysaan marka ganacsigiina way kobcinaysaa marka waxyaabo badan oo qorshaysan waxay interlink la leeyihiin ganacsiga la leeyihiin marka dadka halkan yimaada hodheelkani maanta inteena dhan buu keenay ganacsigii weeyaan hadaynaan inagu iman wuu xidhmi lahaa marka waxa weeyaan ganacsiga dowladda hoose iyo dowladda dhexe iyo idinkuba qayb baa ka qaadanaysaa sida magaalada loo promote gareeyo taasaan kaga baxaya budgetinka xamse waxaan u sheegayaa annagu de budget ma sidano la tegi mayno golaha deegaanka qorshayn mayno lacag aanu jeebabkayga ka keenano meesha geynayno laakiin waxa ay dowladda hoose soo saarto magaranaysa cashuurta dadka laga qaado ayaanu si wanaagsan oo daah furan ugu hogaaminaynaa inay magaranaysaa aan ugu shaqeyno weliba anigu waxaan ka fikirayaa in lacagtaa ka badan aan sameeyo 4 waaxood oo lacagta ka soo baxda waxay noo sheegay Cabdirasaaq oo xeerka soo akhriyay laakiin anu taa mid ka duwan baan aaminsanahay waxaan aaminsanahay hay'adaha oo aan halkan ku soo jiidnaa in budgeting badan ay keenayso oo ka badan dakhliga soo gala dowladda hoose ee aynu nooc cashuurta bixino waxaan kaloo ku dadaali doonaa xeerka 12 inaynu furno oo dabeetana dakhli badan oo 10% saylideena xoolaha lagu iibiyo
ayayna taasina ayna soo geli karto. Waxa kaloo aynu budgetiga ka heli karnaa qurbo joogteena maal gashata gobollada kale iyo dalalka kale. anigu Turki baan tegay sanadkii imakana soo dhaafay 2020 horaantiisii iyo 2019 dadka ugu badan ee investment garaysta waa dadka reer Togdheer guriga laga iibsadaa anigu guri ma sii ka iibso meesha ugu tagay marka waxaan kala walaacay guriga Turkiga ka iibsado markii aan tagay Hargeysa ka dhista marka qof waliba meel buu doonayaa inuu invest garaysto inuu Turkiga invest garaysan lahayn waxaan ku dhiirigelinaynaa in halkan la invest garaysto oo dabeetana ay dadkuna shaqo ka heshaan dadkuna ay amal ka helaan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ibrahim weydiiyay bacdama ay tahay su'aal direct ah oo ah xageebaad ka keenaysaan budgetka ay ku shaqeynayso dawladda hoose waxa aanu ka keenaynaa dawladda hoose waxay qaataa cashuuro badan oo dawladda hoose ay xaq u leedahay baa ka baaqda sababtu waxa weeye dawladdeena hoose iminka one click maaha waxaan anigu rajaynayaa haddii aan tago hoggaanka dawladda hoose in reform lagu sameeyo xafiiska dawladda hoose oo digital laga dhigo digital wax walba waa inay noqdaan computerized marka ardiyada guryaha cashuur baa ku waajibtay maanta 30% wax ka yar bay dawladda hoose cashuurta ka qaataa ma doono yaqaanaan marka kow cashuurta baaqatay waan ka daba tegaynaa anigu saaxiibadeeda waxyaabaha qaar waan ku kala aragti duwanahay bacdamaan dhaqaalaha anigu isleeyahay xogaa waad uga aqoon badantay cilmiga dhaqaaluhu waa cilmi la barto kulliyada jaamacada laga barto anigu ma aaminsanahay hay'adaha aynu halkan keenaba horumar aynu ku gaadhayna ma aaminsanahay taas taa meel ku qorta Afrika caawimo la siinayo iyo hay'ad u timi ay horumar ku gaadhaysaa ma jirto laakiin waxay horumar ku gaadhaysaa hal fikir baa jiro oo najaxay oo dunida dhaqaalaha laga yaqaano dunida dhaqaalaha waxa caana nin leh Adam Smith dadka dhaqaalaha bartay way yaqaanaan laakiin fikirka Adam Smith completely aan waan ka soo horjeedaa Adam Smith fikirkiisu waa fikirka Soomaaliya imika ku shaqeyso waa ka taageeraya suuq inuu xor ahaado oo dadna ay jantar rogana noqotay si doonaan ku galaan anigu waxaan aaminsanahay public sector-ku inuu xooganaado public sector-ku inuu innovation la yimaado inuu dhiirigeliyo entrepreneur-ka dhalinyaradeena inuu dhiirigeliyo oo aqoontooda iyo xigmadooda iyo hibooyinka ku kaydsan uu dhiirigeliyo taas waxa lagu heli karayaa gobolkeena ama degmadeena oo noqoto mid soo jiidata dadka hantida leh waxa aan soo qorshaysan oo ah halka ugu sareysa gobolku inuu beerihiisa kobciyo iminka roob fiican baa magaalada ka daay roob fiican baa magaalada ka daay waxa la yiraahdaa wabiyada aragteen wadamo badan mara I think waxa taa mara Jubayo seasonka uu roobku doo tog dheer leeyahay biyaha mara ka badan biyaha hadii ka faa'iideysano oo balliyada qodorno oo dhaamam ka samaysano dadkeenu wax soo saar bay yeelanayaan dhibaatooyinkeena haysta waxa kamid ah tamaan dhaxabuurta iyo wax kasto guriga lagu karsado dalka dibadiisa inoo yimaadaan barco waa inay beeraley noqoto barco waa inay tijaarteeda iyo dadka kaleba ku soo jeedatay inay warshadaha yaryar fudud samaystaan warshadaha yaryar fudud waxaan halkan uga mahadnaqayaa warshad kasto maanta barco ku taala oo ay kamid tahay warshada hilibka samaysa tatayda samaysa ilays waxay sameeyeen shaqo abuur bay sameeyeen dadkii bay shaqo u sameeyeen marka warshadahana waa soo jeedinaynaa dhaqaalaha dawladda hoose meelaha ay ka hesho waxa kamid ah kaabista dawladda ay ka hesho dawladda dhexe ka hesho dawladda dhexana maadaama aan ka sharaxan xisbul xaakimka waxa aan rajaynayaa inay anaga noo fududahay dawladda inaanu ka dhaadhicin inay burco kor u qaato taas anaga noo fududahay hantidaada ma diwaan gelinaysaa Mr. Haykel aad baan u ixtiraamayaa Mr. Haykel xeerka dib ugu noqo qof kasta oo wadada maraya inuu i weydiiyo hantidaada ma ii sheegi karaysaa waxaan u arkaa halka inaanay xaq laygu lahayn qof kasta oo wadada maraya aad u hantidaada diwaan gelin aniguna ku faani maayo halkan aan balowdo ku leeyahay halkan aan beero ku leeyahay never waxa weeye dadkaan u shaqeynaynaa dadkuna way farabadan yihiin qofba ilaahay baa hantida qayb ka siiyey xeer kasta oo Somaliland u dejisana waxa weeye haddii uu u baahan in dib loogu noqdo sida xeer number 12 waan ka shaqeynayaa kaayo kuwa kaleba in dib loogu noqdo dadka la isa soo gaarsiiyo su'aashii kale ganacsiga maxaa kaaga qorshaysan ganacsiga waan taageersanahay laakiin public private partnership wax leedaan taageersanahay public iyo private waa inay isu tagaan haddii private uu kor u kaco uu ka dhaqaaqo public oo public inuu dhulka galo dantii guud baa hoos u dhacaysa
aniga halkudhigaygu waa u taagan danta guud waxaan mar walba u taaganay dadkoo dhan inay wada guulaystaan degmada burcona way ka ballaarantay magaalada burco waxa aanan marnaba ilowsanayn anigu dadka ku nool duruqsi kuwa ku nool qoryaale kuwa ku nool qoyta intaba wakiil baan ka ahay haddii aan idinku idhaahdo burco keliya baan horumarinayaan dadkaa ilaawo waa mas-uuliyadda dacay meelna waan idiin sheegayaa aad baad mahadsantihiin su-aashaan doonaya inaan weydiiye murashaxidu waxa weeyaan dhammaan su-aalaha la weydiinaya iyo barnaamijkoodaba wax ku qatamaa haddii ay tagaan fulinta wixii ay qaban lahaayeen anu waxaan weydiinayaa su-aala haddii aad fulinta tegi weydaan saddexdiinuba muxuu yahay doorkaa ka qaadanaysaan horumarinta degmada magacaygu waa cabdiraxmaan xarbi calas kana mid a dhakhaatiirta xanaanada xoole ee gobolka togdheer anigu su-aashayda waxaan weydiin lahaa musharax suldaan maadaama ganacsiga ka hadlay waxaan weydiin lahaa arrinka reer burco ula baxeen cumar bin cafuuf arbaan waxaad sheegtay in balaanka guryaha magaaladu ay kala dhaadheer yihiin ama ay u baahan yihiin simid dhaqaalahana waxaad sheegtay in dhaqaaluhu go'aaminayo kaga soo baxaya dowladda hoose ama markaad meesha tagtaan aad eegaysaan marka sidee bay suuragol u tahay inaad sakado badan oo aan sinnayn aad dhulka dhigto oo aad sinto adiga oo aan ka baaraadegin kaabayaashii kale ee hadday caafimaad tahay iyo hadday dhaqaale tahay iyo hadday danyar tahayba magacaygu waa farax kayse xildhibaanada waxaan weydiinayaa su-aal ah maadaama burco 10 sano ugu dambeeyey ay dhubiyadu ay ku soo badanayeen oo mar kastaba ay ka soo galayeen miyiga isla markaasna samaysmeeyo oo noqonaya magaalooyin cusub baahiyahooda asaasiga aan haysan dadkaasi waxa weeye dadka ay noloshooda ku xidhnayd gobolka Togdheer ee xoolaha inoo soo saari jiray ay dhibiyada samaysmeeyo dadkaas sida loo celin lahaa maxay intay ka qorshaysan baan weydiinay waa mahadsantiin haddii aad fulinta noqon weydaan muxuu yahay doorkiin qadar waxa leeyahay anigu amaan fulin noqdo amaan xubin ahaadee maanta waxay ka go'aan burco wax ka bedelo marka waanan joogaya waanan deganahay insha Allah doorkayguna wuxuu noqon doonaa un mar kasta door hogaamineed oo ah inaan bulshada isku xidhayo dawladda hoose oo ah inaan bulshada matalo oo ah inaan haweenka doorkay bulshada ku lahaayeen gudida xalay fulinta dawladda hoose aan ugu dagaalamo haddaan anigu awoodda yeelana waan gelinayaa haddii kalena waan ugu dagaalamay insha Allah taasi waa taas محمد على سوحنا ويديي عمر بن عفوف يا علماء يا انترتينمنت وتان أنا كان سعد فدسان وكجواب سؤال عشان فهمت يدي شيء جايو وحويان لبا أريمود وحبينو كبدلنا لبا أريمود دولة هوسة معها أسكر وحكمت معها وحويان إني جناعسيجا iyo nabadgelyada iyo ma garanaysaa arrimaha diinta iyo masaajidada iyo waxba ay ka warhayso markaas anigu waxaan sameeynaa haddaan fulinta noqdo maayiradii noqdo horta dee TV-ga dadka kala soo hadli maayo waan idiin imanayaa haddii fusuq jiro gacantaydaan ku qabanaya booliiska soo kacaysanaya wixii fusuqa waynu qabanayna ka yeeli mayno laakiin wax walbana xikmad baynu ku salaynaynaa iminka halkan anuu fusuq kuma arko muusiga waxaa raaca ti kasta uu ka shidan yahay meel kastoo lagu qayilo uu ka baxayaa dee hudheelka un ka bixi kari maayee labadaba way iswaafajinaynaa wixii muusig iyo fusuq ahna waynu joojinaynaa wixii hal abuura hadraawi suugaantiisa anigu waxaan ka soo shaqeeyey 10 sannadood hal abuurka suugaanta ma garanaysaa bandhigga lagu soo bandhigo hibada hal abuurka burcana waxay ahayd meelaha hormuudka u ah hal abuurka maanta Hargeysa loo tagaa inanka hal abuurka iyo inanta hal abuurka inay suugaantooda ku soo bandhigaan inay buugtooda ku soo bandhigaan anu waxaan aaminsanahay tayna wax ka bedelo oo attitude-ka wax ka bedelo oo barta ku soo bandhigno oo hoolkan ay fadhino aynu ku soo bandhigno saanaga maanta noo dhageysanaysaan aynu fikradaha iyo su'aalo uga jawaabayno inaynu u dhageysano dadka hal abuurka ah ee curinta leh ee suugaanta ka shaqeeya aynu ka soo dhageysano wixii fusuqana de insha Allah waynu iska wada qabanay dad islaam waynu nahay kaysayna weydiisay waa IDB-yada magaalada ku hareeraysan anigu fikrad waan ka soo horjeedaa sidii uu dharbaan sheegayay in dadkeenu wadankeena dhexdiisa barakacyaal ku noqdaan
waan ka soo horjeedaa mid laba mid un baynu yeelaynaa inaynu dadka dib u xoolayno oo dhaqaalo u raadino oo hay-adaha inaynu ku niraahno naga daaya hana barina inaan idinkayda ku tiirsanaano ee aanu xoolahooda dad kale ku tiirsanaan dib u dhaqaalayno iyo inaynu magaalayno aynu dadka adeegii ay lahaayeen asaasiga ah aynu u geyno waana xero qaxoonti noqone ay noqoto magaalada xaafad ka mid ah oo leyrhkii leh oo biyihii leh oo caafimaadkii leh oo waddadii leh oo iskuulkii leh oo xanaanadii leh oo wax walba leh waynay noqotaa xaafad burco ka tirsan marka waanayna noqon xero qaxoonti oo dee magaalada ka mid ah asalaamu calaykum waad mahadsan tahay haddii aad fulinta ka mid noqon weydaan maxaa idiin qorshaysan waan la shaqaynayaa ciddii markaa fulinta noqota haddii ilahay ka dhigo qadiyadda guryaha halkaa u fiirsada si fiican iyo dhuuxa magaalada burco way gaadhay limidkii lagu joojin lahaa ee aanay dhaafi lahayn way gaadhay markaa horta guryeyntii magaalada burco waxaa fiican halkaa in lagu joojiyo oo dabeetana intaa hore dhisan la dib u qaabo in lagu sameeyo iminka waxa aanu dhaxli doonaa dowladdii hoose aanu ka dhaxli doonaa 15 kilomitir baa direction kastaba magaaladii lasii balowleeyey hantidii guudna waa laga dhex saaray dhisaanka architecture-ka ay u dhisanaanaysana waa la sii qaabeeyey run ahaantii waa wax macnihii lala yaabo weeye waayo annaga xildhibaan ahaan haddaanu nimaadno golihii deegaanka hadhowto 15 kilomitir oo bannaan baa la sii dhisaan gareeyey taasina wax kay ahaydun sababtu dee qolada imanaysa in laga sii hordagun bay ahayd way u muuqataa aniga axmed ahaan meelaha marka bilicda magaalada laga hadlayo muhiimadda iile waxa weeye magaaladeenna bartankeeda haddaad eegtid xaafadda laba qow oo kale waa bartankii magaalada guryaha ilaa iminka duusan 30 sannadoodna somalilan iminka way jirtay dadkii guryaha lahaa waa in la raadiyo waa inay dhisaan haddii ay la waayo waa in bangiyadu ay dhisaan dabeetana ay kirada ka qaataan qorshe cad baan ka leeyahay qaabka guryeynta magaalada la guryeynayo guryuhu waa inay sinaadaan haddaba markaan leeyahay waa inay sinaadaan waxa weeye waa awaamiir waxaa sinaanaya kuwa dambe la dhisayo kuwii hore ee la dhisay wax dib baa loogu noqonayaa marka aan leeyahay public trustkii magaalada waa inaanu dib u soo ceshano annaga golo deegaan ahaan 13 qof ee la dooranaya waxba uma qaban karayna haddaanay dadku nala shaqaynayn oo kalsoonidooda aanay nasiin waxba uma qaban karayno waxyaabaha aan bulshadeena doonay inaan ka dhaadhico waxaa ka mid ah xaafad waliba inay yeelato guri la yidhaahdo gurigii hanuuninta gurigaas oo shaqadu qabanaya ay tahay dadka waayeelka inay isugu yimaadaan oo ay ku shiraan oo duruufahooda ay kaga hadlaan dadka yaryar inay isugu yimaadaan oo hal abuurkooda iyo hibooyinka ku kaydsan ay ku soo bandhigaan guryaha haddaba sidee lagu helayaa aniga waxaan ahay caadiyan qof idealista oo u arka waxyaabaha qaar inay mudan yihiin in la sameeyo waxaa mudan oo dadkaygana aan ka dhaadhicin doono insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa dadku inay aqbalaan xaafad kasta oo burco ku taala in guryo ku yaalla aanu ka dhaadhicino in dhul iyo duco loogu bedelo ducana la siiyo dhulna loogu bedelo dhulka ay ka kacayaan waxaanu ka dhigi doonaa librariyo muhiimadda waxa ay magaaladu inay librariyo badan yeelato xaafad waliba library u gaara oo buugaagta ay ku akhristaan waa inay yeelato nin qoraayahoo aan aad u jecelahay buugaagtiisa ayaa wuxuu ka cawday waqtiga laysu qabto haddeerna 5 minit baa lay qabto waad arkaysaa wuxuu yidhi bariga dhexe qadiyadiisa oo adagtiino eeraan ay ku jirto oo jerusalem ay ku jirto oo falastiiniyiintii iyo yeman iyo kiisaska noocaas ay ku jiraan sacuudi carabi ay ku jiraan baa lagu oranayaa 5 minit ku soo koob 5 minit miyaan kusoo koobayaa barnaamijkii qorshaysan oo dhan waxa weeye walaalayaal qadiyadda guryaha waxa weeye insha Allah ragay la shaqeynayana waan isaga iman doonaa magaalada bilicdeeda marka laga hadlayo waxa mudnaanta leh qaabkay magaaladu u dhisan tahay anigu dunida ama magaalada aan ku noolahay waxay xaafad waliba leedahay farmasi dukaan kii gaas taybinayay hiliblihii meel baa loogu soo ururinayaa mana aha nin kaliyo farmasi lama inuu tuma farmasi midba meel ka furto waa laga yaabaa in xeerka imika ganacsiga uu ogol yahay xeerka freedomka ee qof kaliya inuu dadkii dominate gareeyo oo ganacsigii oo kaliya 4 qof ay isku ceshadaan anigu waxaan dhiirigelinayaa oo dawladda uu hogaaminayo musabixi aan doonay inaan kala shaqeeyo in dawladdu ay kala xadayso ganacsiga si tijaar cusub ay u soo balaato qodobka
qodobka IDP-gu mudnaan weyn buu leeyahay waad arkaysan hadda khudbadaydii koobaad baan ku darsaday adduunka ma dhacdo qofku inuu dalkiisa qaxoonti ku noqdo innagana waa inugu ceeb dadkeennii xoolo dhaqatada ahaa aynu ku tiirsanayn dhaqaale ahaan maanta inay burco duleedkeeda joogaan oo aanay haysan hadday tahay biyihii laydhkii iskuulladii xarumihii hooyadii iyo dhallaanka inta midna aanay haysan fikirkan qaba waxay dadka dhulkoodii lagu celiyo oo la xoolayo maaha in halkaa magaalo looga dhigo si uu magaalada oo dhan ay u dhisanto fikirkaana waxaan ka keenay dalka Mareykanku waa coast to coast east coast iyo west coast baa la yidhahdaa 52 gobol weeye 52 gobolba way dhisan yihiin haddii aynu noqono burco oo keliya aynu ka noolaano sida baabuurtii madax ka noosha aynu noqonaynaa madax ka noosha degmadu waa inay wada dhisanto degmadu waa in midba wax ku wanaagsanaado ma aaminsane dhaqaaluhu inuu yahay oo keliya lacag laba su'aalood baa aniga khuseeyey inankii halkaa wuxuu yidhi haddii aad fulinta ka qayb geli weydaan maxaad ku soo kordhin kartaanee kale faraxna waxay tiri IDP-yada anigu dee qurbajoog maya reer burcaan oo dadka su'aalaha weydiinona waan garanayaa marka labaad anigu cabdirasaaq ahaan horena waan u sheegay anigu haddaan fulinta ka qayb galo maayar noqdo ama ku-xigeen noqdo iyo haddaan waxa jira inaynu nidaamka fahanno markii dhawada waan ka sheekaynayay golaha deegaanka 13 xubnood markay meesha tagaan waxa jira wax la yiraahdo guddiga fulinta waa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa iyo xogayaha iyo guddi hoosaadada gudoomiyaashooda marka guddi hoosaadiyaa la sameeyaa marka golaha deegaanka la tago guddi hoosaadadaasi waxay noqonayaan waaxyaha guddiga dhulka guddiga qorshaynta guddiga dhaqaalaha guddiga waxaasay noqdaan marka haddii aan intaa horta ka mid noqon weydo dee guddiyadaasaan horta noqonayna ama guddoomiye ka noqonna ama xubin aan ka noqonay marka labaad ee kale dee golaha deegaanku xilkiisu ma aha qofka fulinta ah taana inaynu fahnaa muhiima qof wax ma qabto ama meeyar ha noqdo ama xogeeye ha noqdo ama ku-xigeen ha noqdee urur baa wax qabta dowladda hoose la yidhaahdo anigu laakiin waxaanu ku leenahay contribution siman anigiyo meeyarku laakiin wuxuuna dheerayo keliya wuxuu yidhi inkastuu wax galo ama wax gudo ama wax weyn gooyo inkastuu galool muray ka yahay dhiraha gaagaaban hadduu geesh abuuriyo hadduu gaas cartama beero inta ruux wax gaadhsiin karaa way ku dhowdahay galaduna waxay saarantahay wax isu geygeyn nin uunbaa guddoonshe xil waa laysu gororshaa marka wuxuuna dheerayay meeyarkan ama ku-xigeenkan ama xogeeyaha fulintu waa wixii la isla qaatay go'aankeedii dee golaha deegaankana waxa lagu shaqeeyaa xeere sida cabdirasaaq u fakeraya ama xamaad u fakeraya ama sultaan u fakeraya maaha taana inaynu fahanno weeye horta waxa lagu shaqeeyaa xeer siman iyo dad wada shaqeeya marka walaalayaal anigu waxaan aaminsanahay haddaan saddexdaaba noqdo inaan isku awoodahay sababtu waxa weeye waxaan ku kalsoonahay contributionka aan ku soo kordhin karo dowladda hoose maayarka qorshaha la wadaagi karo fikradahan keeni karo golaha waxa la soo jeediyaan la shaqayn karo hawsha lay diraan ka soo bixi karayo qofna waayo damaq bay keenay meesha imay keenin aniga wax kale damaq bulsheed bay keenay ka labaad ee kale IDP-yada ay weydiisay farax horta anigu waxyaabahan kaga duwan waan aaminsanahay cabdirasaaq iminkana idiin sheegayo 8 kale ee golaha deegaanka u tartamaya waxaa ka mid ah inaan ahay qof bulshada xogogaal u ah IDP-yada ka sheekaynayso anigu war baan u hayaa gudahoodaan soo galay waxaan aqaanaa dadka jooga siday yihiin dadka caawiya guryaha u dhisan nolol maalmeedkooda waxaan kaloo aqaanaa 114 tuulo burco hoos yimaada haydharkoodaan isgaranaynaa duruufta dadkaan ogahay burco oo dhan inta hoos tagta waxaa ku yaala 36 goobo caafimaad 26 waa MCH waa xanaano 10 gooboodna waxa weeye waxa la yiraahdaa health boss waa wax yar oo xanaano ka hooseeya macnaheedu waxa weeye 78 tuulo ayaan health boss iyo xanaano midna lahayn waxa ku yaala burco ay xukuntaa 113 iskuul oo dawliya gudaha waxa ku yaala 30 banaankana waxa ku yaala 28 macnaheedu waxa weeye 32 tuulo baan iskuul ba lahayn marka horta dadka noocan ama war u haya dhexdooda iyo inay bilaa iskuul yihiin xanaanada xooluhu ka oolin kuwa ceelasha kuweeba ceelale kuweeba barkad isticmaala kuweeba riigle kuweeba nalba lahayn oo habeenkii maca soolarba oo le finish la shita kuweeba shirkad la yidhi ka shaqaysa waayo baahiyaha aasaasiga ee dadkan marka waxaan idinku noqonayaa dee IDP-yada waxa dhisay oo maalgeliya oo aan kaga duwanahay saaxiibaday markay hay-adaha ka hadlayeen hay-adaha fulintooda iyo inay dalka ka shaqeeyaan waa xeer madaxweyne iyo national day policy waayo waxayna dalalka burburay ee UN-ku ay caawiso 70% dhaqaalaha dalkeena gala waxa bixisa international NGO ama waxa la deeq bixiyaasha caalamka ma doorashadeena ay bixiyaan
50% marka wax cabdirasaaq joojin karo ama golaha deegaanku joojin karo ama maayirku joojin karo ma aha laakiin waajibka weyn ee u horeeya ee saaran golaha deegaanku waxa weeye inay u dhaxayso bulshada iyo dadka wax u qabanaya markay World Vision imka gobolka degada ama Save the Children ama Care ama NRC waxay ka shaqeysaa baahiya aniga la diray ee golaha deegaanka loo diray halka ku qoran markay wash program ka shaqeynayso wash programka ana responsible ka ah dawladda hoose ah sida awoodeed weynay soo gudbisaa 1 minute aan dhamaystiro de waa laga hadal badnaay aan dhamaystiro adoo raali aan dhamaystiro wash programka markay ka fulinayso IDB-yada ama la sameynayo settlement oo urbanization cusub la sameynayo dhulka waxa ka mas'uula dawladda hoose iyada qeexaysa halka laga sameyn karo IDB iyo nooc uu noqon doono cidda degi doonta waxa loo qabanayo marka annaga responsible ka marka waxay waajib ku tahay inayna soo mariso UN-ku laakiin ma aha waa qalad in la yiraahdo joojiya waayo maxaad u haysaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aan weydiinaya Axmed Xiis waxa tiri leeyma weydiin karo xoolaha aan leeyahay Umar ibn Khattab radiyallahu anhu dadkii uu dirsan jiray dhamaantood waxay hayeen 10 mubashiriin qof kasta oo uu dirayna diiwaan buu ku qori jiray uu qorayo waxa weeyaan waxa uu qofkani leeyahay dadkani markay noo wada jooga meesha waxa weeyaan xoolaha ka samaystay dhamaantood dadina la mid ay haayeen way tukadaan way soomaan ilaahayna way aaminsan yihiin marka inaad ilaahay aaminsantahay macnaheedu ma aha inaad iska ilaalin karto xoolaha bulshada laakiin waa inay jiraan waxaan arkayo oo aan kugu aamino oo aad itusto oo hadhow kugu la xisaabtamo waxaan jecelahay inaan soo jeediyo Suldaan waxa weeyaan intii barnaamijka joognay wuxuu in badan ku celcelinayo dhagay ka batay Ingiriiskan ka yimi in joobaan leeyahay tukri baan tagay guri waasri ka dhiso hay'ado ay shaqeeya haddana wuxuu yiri waxa dhalinyarada ku qancinaya inay magaalada joogto ay xawlaysato adigoo Ingiriiska waxa ga dhigtay tukriga dhigtay sida adigu qancinaysaa furcada wax ka samaysto laba su'aalood baan kala weydiinayaa Cabdirasaaq Xiiro iyo Suldaan su'aasha koowaad waxay tahay Cabdirasaaq Xiiro aan garanayo 10 sanadood ee ugu dambeysay ka wada shaqeynay arrimaha bulshada aan ogahayna inuu xogagaal u yahay baahiyaadka dhalinyarada iyo gobolka yaala su'aasheedu waxay tahay Cabdirasaaq maxaa kaaga qorshaysan arrimihii aynu volunteer-ka uga shaqeyn jirnay ee lahaa dhalinyarada Suldaanna waxa weydiinaya waa maasantahay su'aal baa ku furay waa maasantahay su'aasha xildhibaanka koonaa xiga waxaan weydiinayaa su'aal ah kalsoonida aad ku weydiin inaad ku sheegto shacabka maanta aad codka ka doonayso dhaqaalahaagu inta uu yahay ee aad tiri xaqlayguma leh si anigu waan odhan karaa xaqlayguma leh inaan kuu codeeyo laakiin si haddana anigoo doonaya danta burco aad adiguna tiri danta burcaan wax ka qabanaya waa maxay kalsooni darrada ku haysa inaad u sheegto bulshada aad mudatay bulshada aad codka ka doonayso waayo waxaan ogeyn kuwo hore oo kiro ku jiray guryahoodu maantana kuwoodii kiro loogu jiro hal su'aal baan weydiinayaa su'aasha si guud baan u weydiinayaa su'aashani waxay ku saabsan tahay burcoyntii dawladdii hoose ee hadda waqtigeedu gabagabada yahay ay ka jirtay waxaa jiray hanti badan oo la lunsaday dhul badan oo jidadahaa oo la deegaameeyey iyo wax badan oo la qasay oo sidoodii laga bedelay haddaba su'aashaan weydiinaya waxay tahay idinka ma idiin qorshaysan tahay mana idinka go'an tahay in hantidaa luntay iyo dadka xaqoodii lagu duusiyey iyo maxaan ku yidhaahdayey waxa la xumeeyeyba aad soo celisaan musharax Suldaan su'aasheedu waxay tahay sidee danta reer burco u midayn kartaa adigoo aan ognahay markii hore saad ku soo baxday Cabdirasaaq walaa magacaygu waa Ismaaciil su'aal baan weydiinayaa guud xildhibaanada su'aasha weydiinaya waxa weeye qofkii arkay baa arkay dawladda hoose burco marka aad tagto qaabka ay u shaqeynaysaa waxa weeye waxaad moodaa inaanay dadkani dad bulshada u shaqeynaya inaanay ahayn waxaad ugu galaysaa markiiba xafiisyada qof lugaha miiska saaray mid video duubaya mid adigu aan shaqadiiba joogin xitaa haddaad maayarka u baahato waxa laga yaabaa inaad sugto bilba ay kugu qaadataba xitaa aanad helinba ballan maxaa idinka qorshaysan saacada intee leeg baa u shaqayn doontaan bulshada imse maalmood baa wiigii u shaqayn doontaan maxaa qorshe idinka yaalla arrintaa su'aal aan doonayay inaan weydiiyo murashax xildhibaan Axmed Xiis Dharbaan su'aashaasi waxay odhanaysaa murashax barnaamijkan ka horreeyey ee raad waxaa ka muuqday waxyaalo badan oo markaannu dib u eegnay ahaa aday kugu jira Somalilandna waxaa ka muuqata oo intaasoo dhan lagu soo waday isu tanaasul iyo in dadka lagu wado qancin adiguna waxyaalo badan hadday noqoto xeerar aad ka soo horjeesatay iyo adayg badan
ma laga yaabaa berri ka maalin marka aad tagto golihii deegaanka ee magaalada haddaad soo baxdo oo weliba aad u sii heelan tahay inaad noqoto hoggaankoodii ama maayirkoodii inay halkaasi ka timaado kelitalisnimo keeni karta khilaaf baahsan oo golaha deegaanka ka dhex abuurmi kara saddexda murashaxba waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo hal su'aal su'aashaas waxa weeye dhanka waddooyinka somalilan intay jirtay waddooyinka aynu dhisanno tayadoodu waa kuwa aad u hooseeya waddada oktoobar ayaan maalin walba soo mara waxaa la dhisay 2014 maantana ma jirto waa gogol xadhigaha laga jaro ma noo sheegi kartaan waddooyinkeedii qorshaysan ee aad rabtaan inaad hirgelisaan cimrigoodu intay noqonayaan cabdirasaaq oo dhinacayga fadhiya ayaan u dhiibay waan soo koobayaa aniga 3 su'aalood oo kaliya unbay quseeyey waxaan mar labaad ku celinayaa ismaaciil jeesto cawaale maxamed cabdikariin nasra nusayba dad kale oo dhan waa garanaya taasi mar labaad waxay xoojinaysaa inay su'aalaha igu yareeyeen waxay sheegaysaa inay garanayaan waxaan gale iyo waxaan gudow talabaadee kale waxa weeye wuxuu yidhi jeesto wuxuu yidhi waxaa jira hanti badan oo la luunsaday waxaa jira geedhar badan oo sharci darro ah oo waddooyinka soo galay waxaa jira dad badan oo dee si kale wax looga xumeeyey waxaa jira dantii guud oo la cunay waxaa jira deymo badan oo iminkaba laga tegayo oo maqli doontaan maalin dhow markaanu meesha la wareegno waxaa sidaad u gelaysaan horta danta guud horta waxyaabaha gafafka ee sharciga ee dhacay ee hawsha cusub ee aanu qaban doono caqabad ku ah annaga oo ka tashanayna oo weliba aan jecelahay idinkana idinka codsanayo inaad ducaysataan oo waa rabadaan oo waa 10kii dambe ilaahay inay noo baridaan 13 wanaagsan oo burcadeedii hore iyo tuka fiican ka dhiga inay noo soo baxaan aniguna aan jecelahay aniga saaxiibadeeda halka fadhiya Suldaan iyo Axmed iyo Mustafa iyo Cabdiraxmaan iyo niman badan oo kartilaya jeesta iyo inay meeshaan isugu nimaadno maadaama aan isla fahmayno nolosha casriga iyo dadka baahiyadooda dadka fikradooda markay meesha yimaadaan ee aan ku kalsoonahay aqoontooda markaanu tashanno wixii sharciga iyo hanaanka social security-ga bulshadu leedahay caqabad ku ah ee xumaayee la xumeeyey waajib bay nagu tahay inaanu saxno haddii aanu gafnana waa gaf sharci aanu samaynay iyo godobka cusub aan idinka gallay hadday waddo la banneeyo tahay hadday meel dan guudo waxaan ku idhi haddii la soo celin karo la soo celiyo tahay hadday tahay dhulka badan ee iminkaba bannaan ee ama aanu iibsan karno ama dowladdii hore ay ka tagtay ee weli qabyada ah iyo haddii ay tahay inaanu meel cusub iibinno bakhaar burco dhexdeeda oo shan oo isku xigay inaan ku dhaha lacagtan qaado kulliba nin buu ka iibin laha dabeetana aan u bedelo goob bulsheed ama library ha noqoto ama garoon ha noqoto ama xafiis dowladda hoose leedayba ha noqoto 4 degmaba xafiisyada ka furan dowladda hoose waa kiro marka inay kuwa hantiya yeeshaan waa waajib sida aawadeed waxyaabaha hore jeesto talabaad kale waxa weeyaan nusayba su'aal bay weydiisay waxay tiri 10 sano inuu ka soo wada shaqeynayna arrimaha bulshada waxyaabo badan baynu fulinay burco wax badan oo dowladda hoose ku contribute baynu keenay waxayna xaradhaaminayay baahi badan horta waxa kugu bishaareenaya waxa ay soo galiyay meesha waa damaqa waa sababta wuxuu qofkuna ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri qofka arka munkar fal yuqayir biyad gacanta ha ku bedelo haddaanad awoodin afka ha ku bedesho haddii kalena waa inaad meesha dee ka digirgoto waxaan diido markii hore waxaynu ka qabanaynay gacanta iyo qalbiga waa israacinaynay iyo afkaba maanta gacantii iyo afkiiba waa israacinaya anigoo dhammaantiin iyo inta burcee garashada iyo gobonimada leh waxaasi xaradhaaminaya ee dhalinyaradii leedhka ku xidhay kuwa ururada imika halkan fadhiya 10 urur leh kuwa iskuullada agoomaha gacanta ku haya kuwa 12 goobada xirfadaha ganacsi ee farsamada ku haya kuwa waxaan kugu wiri dari lahay tabaruca u sameeya ee imika rabadaan dadka kale ciidsi walaalka ay wadaan oo ay tahay waajibaadkii ay ka saareen dowladda hoose inaan afkiiyo gacantiiba israaciyaan ku dhaaranaya marka labaad ee kale su'aasha u dambaysa waxaana weydiiyey cawaale wadaduna weydiiyey horta mar labaad waxaan ku faraxsanahay inaan construction wax ka aqaano oo basic ka haysto caafimaadka ka haysto maamulka ka haysto arrimaha bulshada ka haysto marka 2 sanadood baan wax ka dhiganayay oo aan tabagal ku hayo wax baranayay civil engineer-ka iyo architect waxa la yiraahdo design-ka marka wax fiican baan ka qaban doonaa wadooyinka wax gaar ah noqon doonta waxa xeerku noo fulinaya markaas ku gabagabeynaya xeerku wuxuu noo sahlayaa inaanu waaxaha kordhin karno 5 waaxood baa jira marka waaxda arrimaha bulshada waxa laga yaabaa inay 10 waaxood noqoto
axmed bay gudihiisa ka guuxaysaa suldaan bay ka guuxaysaa waxaananu sheeganoo dhani waxa lagu ururiyey xeer ahaan waaxda arrimaha bulshaduna dee waa 100 baahiyood marka waaxda dhismayaasha ayaa imanaysa waxa xeerka ku qoran xataa dhismo cusub iyo design cusub architect magaalada jooga ma curin karo ilaa ay approve karayso dowladda hoose marka waxaanu samayn doonaa construction code waxa la yiraahdo ay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda qorsheynta approve kareeyeen oo iyo wasaaradda hawlaha guud iyo guryeynta construction code kaasi waxa weeye wadda sida loo dhisaa horta wayne waxaa yeelato wixii oo dhan oo jooga inaanu fulino oo aan midkayna diidayna uu jecel yahay laakiin laga wada tashanayo mana dhici doonto wadda marka kayba laga gudbinaya la jeexo wadda daadku dul maroon meel biyuhu maraan lahayn assalaamu calaykum iminkana waxaan kusoo dhaweynayaa suldaan jaamac horta runtii xiisaha u haysaan inaan doodahan oo kale aad baan u soo dhaweynayaa mar labaadkana axmed baa su-aashii ugu horreysay weydiiyey waxaanaanu soo jeedinaynaa qofba sibuu u fahmayaa qof wuxuu u fahmayaa malaha inaan faanayno qof male wuxuu u fahmayaa inaan qof kaloo ila fadhiyo aan dee ma garanaysaa dee tartan kula jirno laakiin annagu su-aalaha waxaanu uga jawaabaynaa dee saa noo weydiisaa experience-ka qofku leeyahay jeclada gobolka ka leeyahay dalka ka leeyahay marka axmed wuxuu weydiiyey haddaad adigu ingiriiska joogto oo shaqaysatay oo guryo meel ka dhisatay maxaan anigoo halkan jooga aad igu qancinaysaa horta axmedow anigu waxaan u imi halkan inaan dowladda hoose wax ka qabto taasaanu tartamaya mid baan kaga duwanahay xildhibaanada kale ee iminka shaaciye boorarka samaystay anuu ninkii ugu horreeyay soo qortay sanad ka hor baan ahaa maayir baan doonaya go-aankayguna waa kaas hanka maayirnimada haddaan helo mandate-ka ugu badan oo aan ku guulaysto intiinan iyo inta kale han kaleba horta sharaf bay u tahay waxaanay noqon doontaa inaan waddadii suldaan la maro waddadii suldaan insha allah marka waxa weeyaan inaan idin abuurno han inaan idin abuurno in waddooyin cusub la jeexi karo oo ka duwan kuwii hore maaha inaan idin faanayno talabaada kale waxa weeyaan inuu qofku dee preparation soo sameeyo anigu 20 sannadood baan filantarinka ka shaqaynayay anigoo inan yara oo aad u yar ayaa nabadeynta ka shaqeeyey oo shirar waaweyn hogaamiyey oo aan sportska ka shaqeeyey oo aan horumarka gobolka ka shaqeeyey iima qorshaysnayn inaan degolo deegaan soo sharaxo marar badan waxaan isku dayayay hadda ii qorshaysnaa inaan London xaafadan ka tirsanahay golaheeda deegaanka isu sharaxo taasaa ii qorshaysnayd taana waan iska bedelay arrimo caqiido ku saabsan arrimo diin ku saabsan mustaqbalka Yurub iyo dadka tegaya oo aan ogahay trend inuu isbedelayo oo halkan lagu soo noqon doono aakhirka halkan la iman doono ayaan anigu ka fekeray inaan noqdo dadka hogaamin doona halkan ee hore u sii socon doona dowladnimadeena taasaan igu kaliftay cabdirasaaq wuxuuna weydiiyey sidee baad burco u midayn kartaa anigu waxaan ka mid ahaa dadkii ka qayb galay shirkii nabadeynta ee samatalis ee ka dhacay balaasa ee burco lagu midaynayay waxaan ahaa dadkii ka qayb galay shirkii lagu qabtay weliba xogeeye ka ahaa garadag ee reer togdheer lagu midaynayay waxaan ka soo shaqeeyey buuggayga u horeeya nabad shaa la yidhahdaa the bedrock of peace baa la yidhahdaa wuxuu ka hadlayaa nabadeyntii gobolkan togdheer gabayadii laga tiriyey taariikhdiisii nabad shaa la yidhahdaa waxaan qoray 2005 wuxuu ka hadlayaa nabadeyn waxa weeyaan magacaygu wuxuu taagan yahay suldaano nabadeyn buu taagan yahay waana igu garanaysaan kambeynkan qaaday inaanay ku jirin wax xajiina oo aan mar walba qof kale ama cid kale ku xajiimeeyo laakiin aan doonayo dadka qalbiyadooda inaan soo jiidano oo midayno hadday haween tahay hadday dhalinyaro tahay hadday odayaal tahay hadday cid walba tahay marka aniga waxay igu dooranaysaan oo aan mar walba u taaganahay waa midaynta nabadeynta curinta halabuurka cusub cawaale waan kaga baxaya u dambaysa cawaale wuxuuna weydiiyey wadooyinka waxaan idiin sheegayaa qofka dowladda hoose annaga arrinkayga koobaad waxa weeye waa hogaaminta fiican waxay samaysaa wadooyin fiican waxay samaysaa nadaafad fiican waxaynu bedelaynaa approachka wax walba sidaynu iminka u qaabilno ayaynu bedelaynaa
marka annagu waxaanu soo saari doonaa insha allah biidnillaahi kariim in wadooyinku ay yeeshaan waxa la yidhaha feasibility study ay yeeshaan halkay waddadu marayso quality-geeda biyo shubka biyahan magaalada ku wareegaalaysanaya daadka ee meelba meel fadhiisanaya waa inay qaadaan meel ay biyahaasi kaga dhacaan togan intan inoo jira waana inay biyihii magaaladoo dhan kusoo wareegaan oo ninba meel intuu ka soo celiyo aanay dabadeetana mawjado inagu noqon waa inaan markaba horeysaba samaynaa biyahaas halkay kusoo dhaceen sida ugu fudud ee ay u gelayaan toga ugu dhacayaan marka waxaynu samaynaynaa engineering fiican oo feasibility study sameeya oo biyaha magaalada si looga saari lahaa wadooyinka sida pavement ama sideway waxay yiraahdaan ingiriisiga lagu yiraahdo dadku maraan loo sameeyo taasaan runtii ku dadaalaynaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaan raxiim horta markiina la casuumay waxaana lagu yidhi jaamiciin baad u tegaysaan marka su-aalkii la weydiinaya qaar badan oo ka mid a cadiifad baa ku yara jirtay waad mahadsantahay naadir dee saaxiibkii cabdirasaaq hiirona wuu fadhiyaayoo sharcigii dowladda hoosena xeerkiina wuu sitaa xeerka dowladda hoose meelna kagama qorno qof shacabi intuu laamiga istaagay inuu igu yidhahdo hantidaada ma ii tirin karaysaa meel miyuu ku jira cabdirasaaq hay-ad buu qaabilsan yahay hay-ad baa laakiin de u xil saaran hayso hay-ad baa hadde isago shacabkaa loo sheegaya eeg wuxuu inankaasi weydiiyey inankaasina weydiiyey caawa maalintii horena inankan baana weydiiyey halkan fadhiye hadda ma noo sheegi karaysaa oo ma noo tirin karaysaa hantida aad leedihiin cabdirasaaq saas ma sax ba sidaasi saxmay waxa weeye inuu golaha deegaanka ku xareeyo oo qorada caqabada loo gudbiyo ka dhowna hadhow transparency marka la samaynayo xisaabtanka in qof walba la soo bandhigo bulshada loo bandhigo markaa xeerka iyo maxkamadda la bandhigaysa jawaabtu waa miduun caawa miyaa xaq laygu leeyahay hantidayda inaan halkan ku soo bandhigo hayo maya hayo maya hayo maya anigu waxaan aaminsanahay xeerku wuxuu sheegayaa sidii shuruudihii kale aanu soo marnay aydaan waxba idinku ka ogeyn hadday dhaqaalo tahay hadday shahaadooyinkii tahay hay-ad baa u qaabilsan xeer walbo iyadaa xaq u leh laakiin qof sivil oo shicib oo suuqa jooga intuu maalin walba qof madaxa u yeedho yidhahda hantidaada ii tiri taa xeerku ma dhigayo xeerkana haddaba aan ku noqonaya saaxiibkay dahiro xisbiga ucid buu ka sharaxayaa suldaan hadduu yidhi 20 sannadood oo danta guuda baan ka shaqaynayay 20 sannadood baan siyaasaddaanuna ku jiray suldaano waxaan sheegayaa hiro waan ku fahmayaa kala xisbi baynu nahay siyaasaddu waxay u baahan tahay polarization anuu dadkao dhan ma wada qancin karo dadkao dhan waa sababta xisbiyada u furanay dad baa jira Hillary Clinton baa berigay Donald Trump la tartamaysa waxay tiri 40 baanu kala haysanaa 40% Donald Trump haysta 40% aniga haysta 20% baa daacad ah oo hadalkaygan ku go'aan qaadanaya laakiin in badan oo halkan idinka fadhidaa already cidaad go'aanka siinayseen waad qaadateen I think inaad jaamiciyiintiina deen isfahmayno dadka idiidan dadka already go'aankooda ku salaynaya sababtu doontaba haatee go'aankooda bixiyey halkan kagama suurtagal maaha inaan ka bedelo laakiin dadka daacadda waxaan idiin sheegayaa xeerkan uu ku noqonayo golayaasha deegaanka 1957 kii ingiriisku inoo sameeyey markii intaa wixii ka dambeysay amendment wax la yiraahdo wax ka bedel baa lagu sameeyaa dowladdii maxamed siyaad barre 30 sannadood ay Soomaaliya haysatay xeerarka mabay taataabanba isaga xeer ahaa maxamed xaaji ibraahim cigaal waxa lagu xasuustaa haykalka dowladnimada ee Somaliland anigu insha Allah taala waxa noqon doonaa qof saameyn ku yeesha ama wax ka bedela xeerarka dowladaha hoose iyo degmooyinka sidii imika 1957 kii loo dhigay ee uu ina cigaal kaga tagay ayuu baa wax yar yar laga bedelaa
waxyaabaha aan anigu ogahay aan isleeyahay saaxiibaday waad uga khibrad badan tahay inkastoo aanan ka aqoon badnayn nimanka marnaba oo sidan uu cabdirasaaq ku celcelinaya waxaan waan kaga fiicanahay waxaan waan kaga fiicanahay dee haddii la faanayo faan bay u ekaantay sababta waxa weeye annagu imika laba shaqo oo kala duwan baanu isku haynaa mar waxaanu nahay golaha minishiibiyada ee magaalada burco marna waxaanu nahay golaha degmada burco oo ka kooban ilaa beledhiig halkaa 177 kilomitir bay noo jirtaa xaggaana 170 kilomitir baa laga faqaayo bay noo jirto xaggaana duruqsi baa ku taala waa degmo maaha magaalo haddana golihii degmadaanuna golihii minishiibiyada waanuna xeerkaasi ma kala qeexayo caalamka dee suldaan uu soo arkay London buu ku noolaan jiray minishiibiyadu waa magaalada inta ku nool minishiibiyadu ma maamuli karto beeriyada ismaamulayso meer yeelanaysa ama arshuwa wax la yiraahdo yeelanaysa oo maamulkeeda dhulkeeda iyo qashin gurkeeda iyo waxeedaba ka shaqeynaysa xeerkaasi markaa xeerka sidaa annaga imika isu kaaya saaraya baladeeg xeerar badan baa waxaa jira oo loo baahan yahay in dib loogu noqdo kaasi waa xeerarka waana xeerka reer burca ay ka cawdaan ee number 12 waxyaabaha iska soo horjeeda waxaa ka mid ah reer burca waxay ka qabanayaan xeer number 12 haddana xeerarkii bay leeyihiin sidooda loo adkeeyo taas waa contradiction wax iska soo horjeeda xeerar badan baa u baahan in dib loogu noqdo waana sababtaynu baarlamaanka u dooranayno xubnaha baarlamaanka u dooranayno xubnaha waxaynu dooranaynaa in revision lagu sameeyo xeerarka haddaba haddii damiirku uu iga reebi waayo hantida ummadda inaan cuno oo ay diintu iga reebi weydo inaan cuno waxaan aaminsanahay qofkaa xeerka ma reebayo waayo xeerka qofku wuu khiyaamayn karaa laakiin cidda aanu khiyaamayn karin waa ilaahay laguma xukumi kara madaxda kii kaa horreeyayba waxbuu xumeeyey diin kugu aamini maayo shay la isku aamino oo damiirka iyo diinta ka sarreeya aanu garan maayo dowladnimadana sideedaba anugu philosophical waxaan u aqaanaa inaanay ahayn social contract intiina waxbaratay dowladaha daraasadaysay laba definition bay leedahay dowladnimada marka leeyahay waa maxay dowladi mid cabdilaahi suldaan timi cadaa ku qeexay oo waxa la metaphorku waxa weeye dowladii wuxuu ka dhigay hal la yidhaahdo maandeeq curoto mataanayse aan maal lahasheena maandeeq waa wax la cunayo marka inta badan siyaasiyiintu markay aad hadlayaan waad aragtaan hasheenna cuntadeenna wixii waxaa laga dhigayaa wax la cunayo dowladnimadii markaasay weliba baarqab u baahataa siyaasiyiintu qaar baa ka oranaya xisbigayga baarqabka ku badan baarqabka hadda bal u fiirsada halkaa eg dowladnimadaynu isla fahanno dadka wax bartay dowladda looguma qeexi karo as a metaphor ee keeyo looguma qeexi karo waxaa loogu qeexi karaa abstract waxa ay tahay rasmiga dabeetana fikrad liberalka dadka libertyga aaminsan baa waxay ku qeexeen dowladdu inay tahay social contract inagaa heshiis wadagelayna laakiin haddaanu nahay dadka diimaha ay afkaaraha uga yimaadaan waxaan aaminsanay diintu inay tahay rabbaani cidda keliya ee aan ribood garaynayaan accountable-ka u hayna waa ilaahay haddii dan ilaahay laygu aamini waayey haddii anigoo madax lay xushay ay igu aamini waayeen dadkii xeerku waa daciif markaa waa philosophical waxaan aaminsanay halkaana waan isla fahnay su-aasha ugu dambaysa ama su-aalihii kale haddaan uga gudbo markaa su-aashaas aniga igu soo noqnoqotay in igu filanna waan ka sharaxay habraaca shaqada qof baad ugu imanaysaa xafiiskii isagoo xanjo iskaga calaashanaya tusaale ahaan siduu doono ugu ciyaaraya waxyaabahan anigu axmed ahaan u imi in uu nidaamka xafiisku yeesho kala dambayn in timetable-ka la ilaaliyo oo waqti lagu shaqeeyo mafaham in waxa weeye training loo sameeyo shaqaalaha aqoontooda la kobciyo gender balance-ka yes haddii ay u qalanto inanta u qalanto shaqada waxa weeye waa inay way tagta xafiiska inanka iyo inantuba imtixaan isku mid ah waa inay galaan waa in isku si loo qiimeeyo waa in shaqada ay saagu galaan haddii hablaha uu culays oo ku dhacay waa in xafiisyada ay yimaadaan oo loo fudaydiyo shaqada marka taasina waa taa jidadka sidee loo tayinayaa jidadka hal qodob baa inoogu muhiimsan waa daamurka maaha inaan idhaahdo injineer baan u diranaya anigu daamur haddaynu helno inugu filan laamigaasi tayu yeelanaya laamiga aynu samaysanay haddii aynu helno daamur inugu filan oo dadkaygana ka dhaadhiciyo inay dalkooda u shaqeeyaan gaar ahaan kuwa tusaale ahaan degmooyinka markay laamiyadu u baxaan waxaa jira walaal shaqaalaha dowladda marka laga shaqeynayo waxyaabo aan ahayn mushahar oo keliya aan la isa siin hawsinkii baad ka caawin karaysaa waxyaabo kale oo noloshiisa saddexda musharax mid kastaaba waxa uu soo dhigay dood kala duwan marka musharax kasta waxaan weydiinaynaa sidoo arko musharaxa kala doodiisa su-aalo way noo dambeynayaan imika waxaan ku wareejinayaa cabdirasaaq hiiro bal sidoo warko
dooda labada musharax ee kale ee barnaamijka kala qayb qaadanaya. waan bogaadinayaa horta walaalahay axmed cabdi aadan iyo suldaan waa rag dee wax badan soo arkay iga daaweyn akademig inay yihiin aan ogahay laakiin waxyaabaha aan arko inayna ku saxnayn oo ay gefgelayaan waxaa ka mid a ilaahay subxaanahu watacaala dunidana markuu abuuray dadka ma odhan dar ilaahay isaga socda dee laakiin ilaahay kitaabkeenna qur-aanka ay 3 qaybood buu qaybsayay qayb la yidhahdo tawxiid oo ilaahay uu iskaga hadlayay awoodaha dunida inuu isagu leeyahay iyo qayb la yidhaahdo qisas waa sheekooyin wixii hore u dhacay waxa dhici doona iyo qayb la yidhaahdo axkaam waa qaybta ugu badan axkaamtaasi waa waajib qofku hadduu axkaamtaa ka baxo muslimnimada dee uu ka baxaya marka xeerarku dadkii bini aadamkaana markii ay dee hal abuurnimada dowladnimaduna ma aha waxay bini aadamku samaysteen sida loo nooliyo dowladnimadu bini aadamku fikirkooda kamay keenina waa min asamaa nebi baa la soo diray dadkii uu xeerar u sheegay wuxuu yidhi sidan u dhaqma waxaan iska daaya waxaan sameeya maxkamadda guurka sakada ciidamada dagaal anything iyagaa gaashaandhig wax kasta sameeyey laakiin hal abuurkii dadku wuxuu ku kordhiyey inuu wixii kale wasaaradeeyo dowladda hoose baarlamaanka wasaaradda gaashaandhigga tambaariyadda dacaynkan marka waxaasoo dhanna isla xeerar bay u samaysteen bini aadamkiina marka waxyaabaha aan la aaminsanahay inay ku qaldayay waxaa ka mid a dowladda hoose waa adeeg bixiye ma aha xarun siyaasadeed oo kulmiye iyo cudiyo wadani ku dagaalamaan ma aha waxaan kugu dhisi ninka kulmiye ama uu cid ka yimi siyaasadda xisbigiisa inuu ku maamulo waxa weeyaan xeerar iyo shaqo dhammaystiran oo qoran oo aan waxba ka tegin 3 fursadood bixisa cabdirasaaq fikradiisa uu ku soo kordhin karo waxay bixisay qodob la yiraahdo inaad waxa kordhin kartaan xeer hoosaadka golaha deegaanka iyo inaad qorshe keeni kartaan marka waxa la jirrabaya waxa la caafimaadka ka shaqeeya caafimaadka wasaaradda ka shaqeysa fayadhowr baa ka shaqeeya dowladda hoose ka shaqeysa sidii la isugu xiri lahaa ayadoo xeerarka laga duulay waxa lagu kordhinayo waa waxaan meesha u imi inaan xirfad leeyahay aan ku samayn karo activity plan ka labaad ee kale aan kaga duwanayo waxa weeyaan xeerkan haddii la iskala baxo qofku fikradiisa yidhahdo fiishan baan sitaa dee waxaynu xeerarka u samaynay ilaahay xeerka u soo dejiyay waxa weeye qof aragtidiina laynagu maamulin dee wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allaahu marka doodooda waxaan u arkaa inta kaloo dhan way fiican yihiin waxay ka hadleen oo dhanna halkan bay ku qoreen laakiin nasiib darra may akhriyin manay fahmin sidaan dee u arko wax badan oo kale oo niman kaloo badan ay ka fikirayaanna halkan bay ku qoran yihiin waxa qoran hal abuur cusub keeni kartaan waxa qoran inaad wax ku kordhin kartaan waxa qoran masiibooyinka dabiiciga tusaalaan garawaaga ma yaqaana dee dowladda hoose iyo dee xeerkeenu laakiin garawaagaa dhib inagu haya daadkaa dhib inagu haya waxa inagu haya derbijiifka dadka dawarsada waxaan oo dhan xataa waar ilama meesha u hooseysa way ku qorantay laakiin de qofku waa inuu fahmo hanaanka dowladeed ee lagu faanay qofku markuu dowlad baan wax ka fahmaya waxa weeye inaad taqaano national institution iyo public administration siduu u shaqeeyana waa xeerar waxaanan u dhaxaynaa dowladda dhexe iyo bulshada adeegaan u fulinaana waa adeeg qoran shaxshaxdii lagu kordhin lahaa saddexdayada iyo inta kalena waa waxna laga sugayo xeerku baneeyey wasalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan yahay cabdisaaq hiiro iminkana waxaan ku wareejinayaa suldaan jaamac nuux isna bal siduu arko dooda labada musharax ee la tartamaya bismillahi raxmaan raxiim anigu runtii aad baan u ammaanayaa waxaan anigu soo qortay maayer in badan baan ku ololeeyey labada nin baa iminka ay challenge gareen waxaan oo dhan waxaa idin keenay waxa weeye bal inaad ogaataan fikirkaaga idinka soo dhex bixi karaa haddaan yaro qiimeeyey cabdirasaaq doodiisa uu soo bandhigayo maalin horena aan ka wada qayb gallay dood runtii xeerkii golaha deegaanka yaalay 2019 amendmentkii ugu dambeeyey lagu sameeyey ee 13 lagaga dhigay ee la yaro dheereeyey jutiska ama ma garanaysaa waajibaadka ka saaran xubinta golaha deegaanka ay waxay qabanayso ayuu runtii aad u soo akhriyey waxaan marmar dareemaa inuu macallin lecture jeedinaya yahay oo xeerkayna educate garaynayana baraya laakiin bulshadu taa ma rabto saan qabo waxay rabtaa maxaad qabanaysaa adigu suldaan muxuu qabanayaa muxuu idiin sheegayaa muxuu bedelayaa muxuu kaga duwan yahay kuwii hore qabtay muxuu kaga bedelan yahay kuwa dambe imanaya
taasaa lagaa rabaa waa inaad wax contribution gobolka ku darsatay waa inaad aqoon iyo khibrad leedahay waa inaad wax ku soo kordhin kartaa dadka waa inaad kalsooni ku abuuri kartaa waa inaad garanaysaa qaybaha kala duwan ee bulshada aynu u shaqaynayno marka cabdirasaaq intaasaan ka oranaya axmed runtii waa philosopher waa nin runtii buug badan akhriyey isagaana idiin sheegay inuu buug badan akhriyay dhul badanna maray taa iyo relationshipka ka dhaxayn kara golo deegaan oo burco ku yaala oo dadkiisu aanay 80% wax baranin philosopher laguma shaqayn karo lagama shaqayn karo in philosopher loo noqdo wax badan oo xuduudkii xeerkan waa dirsan akhriyo ka baxsan ayuu mararka qaarkood inoo sheegaya xuduudkiiba ka baxsan beeralayda dadkaas waxaas anigu runtii waxaan qabaa inaanay ahayn shaqadan meesha ka qabanaynin taa idinkuma qancin karno dood ma noqon karto marka waxaan qabaa inay doodu tahay war maxaad burco soo qabata 30 sannadood baa xeerka ugu yar inaanu imanka deegaanka loo tartamo maxaad 30 sannadood ku contribute garaysay burco waan ku dhashay waan ku dhaqday waxbaan ku bartay macna ma samaynayso laakiin burco maxaad u qabatay maxaad 30 sannadood ku soo contribute garaysay maxaad u qaban doontaa midna axmed waan leeyahay anigaan ugaba dhigaynin dhaliil axmed haddaad u sheegto dadka war guri yar baan leeyahay ama labaan leeyahay waxba ku yeeli mayso kalsoonida dadkay soo jiidanaysaa marka aad iyo aad baa mahadsantii kaftanka iyo dooda iyo wada hadalkuna waxay kordhisaa garaadka qofka maaha in la iscaayayo maaha in la ismaagayo maaha in runtii la soo jiidayo qofku markuu waayeel noqdo mar walba wuxuu garan karaa ama aqoonyahan yahay the debates waxay leeyihiin xeerar iyo discipline iyo magaranaysaa si loo wada doodo intaasaan axmedna ka waranayo ana mahadsantii asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu axmed cabdi xiis darbaan abtigay cabdirasaaq hiiro waxba ka sheegi maayo suldaanna waxba ku talax tegi maayo laakiin mid baan yaro jecelahay inaan qeexo hogaamiyaha marka laga hadlayo waa inuu go'aan qaato go'aan aad qaadatay haddaad ka soo noqotid go'aan jilic weeye shir guddoon weeye ya anigu dr sakariye I think inaad dhakhtarkii bini'aadanka tahay dhakhtarkii mise veterinary baad baratay medicine maalintii aynu raad joognay iyo iminkaba anuu hal midun baan ka hadlayaa waxaan ka hadlayaa xeerarkeennu waa qadiimi qaar badan oo ka midi waxay u baahan yihiin in dib loogu noqdo suldaanna midho waan ku taageersanahay mushkilad xeerarinama haysato ee waxayna haysta mushkilad xagga afkaartaaba ayna haysataa oo bulshadan waxay u baahan tahay fikradihii hore aynu ku shaqayn jirnay mayna anficeen hadday maya tahay waynu iska bedelo waynu qaar cusub keenno anuu markaa sida uu sultaan kuu sheegay waxaan aad u dirsaa falsafadda iyo siyaasadduna ma kala maaranto falsafaddu markaa waxyaabaha ay aaminsan waxaa ka mid waxaa leedaha hebel tusaale ahaan waa realist ama waa pragmatic ama waa idealist ama waa existentialism waxyaaba noocaasa bay leeyihin anu waxaan u badanahay dadka idealistka ah ee aaminsan dariiqaa haddaynu marnana guul baynu ku keenaynaa haddaynu dariiqaa marnana waynu ku guuldaraysanaysaa haddaad doonto inta hore guul yar waad gaari kartaa guul yaroo koobaad mabaadiida markaa anigu aan u taaganay waxay tahay haddii horumar la doonayo waa in manufacturing uu jiro waa inuu jiro manufacturing iyo industrygana waxaa inaga hortaagan koronta inaga hortaagan electricity baa inaga hortaagan marka dalku guud ahaantii waa inuu u jeesto dhinaca wax soo saarka beeraha ka mida xoolihii oo la tayayaa ka mida ciiddii oo laga warhayaa ka mida marka wax kaleba laga tagan ciiddeenna mas-uuliyad baa naga saaran oo waa inaan ogaano waxa ku soo kordhay dhibaato waxaa inagu haya geedka la yidhaha garanwaaga geedka la yidhaahdo quraca waa in siyaasade ay nooga dejisan tahay marka cabdirasaaqna waxaan mid baan aan kaga duwanay inkastoo aanan jeclayn cabdirasaaq inaan wax ka sheego waayo abtiga weeye cabdirasaaq waxa weeye policyga la yidhaahdo DDF District Development Fund every 5 years shantii sannadoodba dib baa loo jadiidayaa waa ka markaa policyga ayaa lagu shaqaynayo ee meera kastaaba markuu yimaado uu dhinacu la dhaqaaqayo kaas weeye ka markaa anigu aan aaminsanahay
in dadkeena garaad ahaan loo kobciyo aqoonta la kobciyo marka waxbarashadu priority bay ii tahay priority bay ii yihiin wax soo saarku priority buu yahay oo beeraha iyo warshadihi waxaaba leh sidee baa lagu gaadhayaa waxay ku xidhan tahay in program in xaggaa horta loo jeesto oo la ogaado inaanu beeralay u jeesanayno waa inaynu ogaano John F Kennedy berigii uu Russia 1960 something 63 ayaa Russia ba waxay direen dayax gabcad bay direen waxay tageen I think in Mars tageen Sputnik baa la oran jiray on the spot buu John F Kennedy ku yiri waa sida ugu dhaqsiyaha badan oo inuu dayax ku tagno marka walaalayaal qofku waa inuu meel hiigsanayo oo leeyahay halkaasaan anigu bulshadeydii geynaya laakiin haddii ku soo wareegaleysano waxyaabaha hoose waxyaabaha uun been weligeedba ku wareegaleysanaynaa dhinacna uu ka ciwaan ka ahayo dawladda hoose budgetka ay ku shaqaynaysaa uu xadiday budgetka laakiin waa in dadka loo meeqaan waa in loo dhowro oo meesha ku fiican tahay la geliyo marka insha Allah taala aniga hadii aan ku soo baxo meernimada magaalada waxa aan u noqonayaa bulshada horta dhex baan u noqonayaa magaalada Burco dhex baan u noqonayaa qodobka labaadna waxa way aanu role model baan leeyahay maxamed xuseen maayirkeeni hore waa role model historygiisina waan hayaa bilaa rafle badasa buu ka aan jiray magaalada wax badan buu gashaday waa role model marka anigu intaasaan ku soo gagweynay labadayda saaxiibadaan waxa ka sheegmaayo aysan yihiin saddexda musharax qanci musharax bulshadaada barnaamijka waxaa soo qaban qaabiyay saddex xubnood oo ka mid yahay tobabare Jamakraaciin Dr. Ahmed iyo Maxamed Cabdi Xirsi sidoo kale waxaan aad ugu mahadcelinayaa shirkadda muuqaalada ee Future Brothers iyo DJ Qulle sidoo kale waxaan mahadcelinayaa bulshaweyntii kala duwanada ee ka soo qayb gashay barnaamijkan inta barnaamijkan barnaamij la mid ah ku kulmi doona waxaad kaga tegaynaa